hagaag saaxiibayaal habeen wanaagsan xaggaygu waa 12 habeenimo ama 6 saac oo habeenimo hadba sidaad u taqaano taariikhdu waa 11 bisha 8aad 2018 u diyaar garooba dhageysiga barnaamijka habeen wanaagsan habeen wanaagsan dunida meel walba inaga maqlaysaan qodobada caawa barnaamijkaad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah xisbigii doortay madaxweynaha cusub ee dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya oo looga yeeray Addis Ababa waliba la duldhigay amar adag oo aynan jabi karin waxaad maqli doontaan xisbiga jawaabta uu ka bixiyay iyo waliba xaaladihii ugu dambeeyay xisbigaasi awoodii siyaasadeed ee xisbiga meesha ay marayso caawa ayaan idin maqashii doona hadduu alla idmo sidoo kale barnaamijka caawa waxaan idinkugu hayaa xubin ka tirsan golaha dhexe ee xisbiga dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya oo xaqiijiyay inuu xiran yahay Cabdi Maxamuud Cumar oo horay madaxweyne uga ahaan jiray dhulkaasi madaxweynihii hore ahna gudoomiye xisbiga Cabdi Maxamuud Cumar waxa weeyaan inuu xiran yahay waa cadda sababta telefoonada ma shaqaynayaan lama isticmaali karo ilaa iyo makaayada oo tagtay aragti ma jirto waxaad maqli doontaan faahfaahin dheer oo ku aadan qaabka Cabdi uu gacanta ugu jiro iyo hadaladii ahayd Cabdi waa xorriyadiisu way dhameystiran tahay oo beenooday caawa ayaad barnaamijka ku maqli doontaan sidoo kale caawa waxaan bulshada la wadaagi doonaa muuqaalo ka mid ah muuqaalo fake ah oo lagu buubuuniyay dagaalka Oromada iyo Soomaalida oo caawa sir idinkaga hayo maxaa yeelay social media waxa qabsaday muuqaalo murugo badan sawirro naxdin badan qaara fake ah oo aanan sal lahayn oo been abuura oo aynan haba yaraatee wax runa aysan ka jirin waxaad caawa ogaa doontaan muuqaalada naxdinta idinku beeray oo social media maraya tan saxda ah iyo mid aan saxda ahayn sidoo kale caawa waxaan idin iftiimi doonaa muuqaal laga duubay mid kamid ah xasuuqyadii ka dhacay Afrika oo laga dhigay xasuuqa Oromada iyo Soomaalida waliba waxaad dhageysan doontaan wabigii biyaha wabigii dhiigga isku bedelay oo aad arkayseen oo ah wax been abuura oo haba yaraatee aan waxba ka jirin dadka booborinaya dagaalka Oromada iyo Soomaalida danta ay leeyihiin ayaan caawa idinla wadaagi doona hadduu alla idmo gambasho ma jirtee doodu way soo socotaaye runtana kama xishoono waxaanu soo bandhignaa xaqiiqda jirta oo waqtiga ummadda aynu la wadaagi karayno sidaa darteed golihii dhexe ee xisbiga dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya waxaa lagu amray inay ka amar qaataan mudane wasiir Axmed Shide iyadoo oo lagu yiri wasiirkaasi isaga mooyee cid kale aad hoostagaysan haba yaraatee ma jirto waxaad maqli doontaan fursadii shalay iyo maanta sidoo kale caawa waxaan idin hayaa isla markaana aad barnaamijka ku dhageysan doontaan qofku inuu laba jeer hadlo waxa ka wanaagsan inuu hal jeer go'aan ummadda la wadaago waxa jiray siyaasiyiin dhulka deegaanka Soomaalida Itoobiya ku dhawaaqay kelmado runtii markii hore bulshada Soomaaliyeed ay la yaabanayeen haddii uu Abiy Ahmed shalay ahaa isbedel doon isla markaana lagu tilmaamay inuu yahay ka soo baxay geeska Afrika goormu Abiy Ahmed noqday dambiile oo la eedeynayo ilaa shalay soo lama amaanayn waxaad dhageysan doontaan siyaasiyiinta danleyda ah oo marka hore amaana marka dambana gumaysi ku tilmaama hogaamiye kasta oo geeska Afrika ka soo jeeda caawa ayaan barnaamijkeeda kugu hayaa doodeenu kama miirno wali waxa taagan su'aashii maalmahan aanu isweydiinaynay su'aashaasi oo ah xisbiga talada dalka deegaanka Soomaalida Itoobiya waa xisbiga halkaas ka arrimiya wuxuu aaminsan yahay haddii iyaga ama isaga talada laga qaado wadanka uu gumaysi galay hadduu isaga talada hayana wadanka uunan wax gumaysi haba yaraatee uunan ku jirin haddaba haddii isbedel ka dhacay geeska Afrika oo runtii qoomiyado badan oo Oromada ka mid ahayd oo markii hore dulmanaa hadda xorriyadooda la siiyay Soomaalida kilinka shanaad degan miyaysan xaq u lahayn hogaamiyaha ama xukunka dalka inay qaybsadaan miyay xaq u lahayn xukunka dalka inay qaybsadaan haddaba caawa sidoo kale haddii hogaaminta shacabka dhulka deegaanka Soomaalida Itoobiya fursad laga siiyo qabaa'ilada kale ee ku nool halkaasi sidee baad u aragtaa waqtigan 2018 dir iyo ogaadeen yaa hogaami kara dhulka deegaanka Soomaalida Itoobiya wadada aan rabo dadka inaan la wadaago haddii isbedel Itoobiya ka dhacay dhulkuna uu yahay dhul Itoobiya hoostaga federaalka markii loo eego Itoobiyana ay garoosatay in Tigreega laga qaado Oromada loo dhiibo isbedelkaasi haddii la yiraahdo dhulka deegaanka markii la keeno waa gumaysi cad iyo waliba ku talagal lagu baabi'inayo dhulka deegaanka soo lama oran karo in la caburinayo qabaa'ilada ku nool dhulkaasi miyaynan xaq u lahayn oo fursadda hogaaminta dalka miyaan la sii karin qabaa'ilada beesha dir ay ku jirto haddaba hogaanka 2018 qof yahow Soomaaliyeed
gabar iyo wiil aragtidaada xor baad u tahay ummadda Soomaaliyeed ee dhulka deegaanka Soomaalida Itoobiya ku nool yaa samata bixin kara labada qabaa'il ee midi taariikh dheer ku leh midna oo hoggaanka maamulka hayay ilaah baan idinku dhaariyay ciidamada New Police 90% waa hal qabiil 10% waa qabaa'ilada kale ciidamadaasi ma matali kara dhulka deegaanka Soomaalida Itoobiya waqtigan ma la oran karaa ciidamadu ma aha kuwa qaramaysan qabaa'ilada dhulka deegaanka miyaynan iska dhex arkayn oromadii militariga loo diidanaa inay iska dhex arkaan hadda militariga way iska dhex arkayaan miyaan New Police aysan iska dhex arki karin beelo ay ku jirto beesha dir oo kale miyaanan laga dhigi karin ciidamo qaramaysan oo federaala ummadoo dhanna ay wada arkayaan caawa ayaan idinku hayaa barnaamijka magacaygu waa Balwaan inta barnaamijku socdo waxaan idin rajaynayaa waqti wacan iyo la socosho wanaagsan balse marka hore sidaad ogtiin maalmihii ugu dambeeyay waxaa jiray xorgufyo kala duwan oo siyaasadeed haddaba golihii doortay ama golihii uu ka tirsanaa Cabdi Maxamuud Cumar Addis Ababa looga yeeray waxa la yiri degdeg ku taga magaalada Addis Ababa amarkaasina ma jabi kartaan sidoo kale xubin ka tirsan golaha dhexena wuxuu noo xaqiijiyay Cabdi Maxamuud Cumar inuu xiran yahay waraysi dheer oo wasiir ka tirsan golaha deegaanka Soomaalida Itoobiya oo siiyay warbaahinta ila wadaaga waxaan aqoon ku shaqeeyay toosaaca ku saabsan dowladda federaalka Itoobiya iyadoo adeegsanaysa xooga dalka ku ciidamada militariga iyo federal police ayaa maxaa deegaanka si toos loo soo fargeliyay runaatii maalinta maanta kale wax la soo saxay la jiro oo dowladda federaalka ay aragtay saxada waxaad moodaa inay ka muuqanaa diyaar ahayn oo sababta maxaa ku raadin madaxweynaha deegaanka oo si sharci ah xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaaliya Itoobiya oo u sameeyay gurigiisa doorasho sameeyay shirkiina uu doortay in kala maxaa ku raadin golaha xagga tirsan ku jirsan ka tirsanaa madaxweynaha hore loo doortay dooniya xisbiga inuu yahay ayaa nidaam sharci darro ah inta lagu qaaday adsal lagu geeyay oo ku xiran yahay marka ma warba ka heshay madaxweynihii hore inuu hadda xiran yahay والله ها مدحويني هو أنا كنت وين شفت بقى عندي محمد عمر وحوي أنا الفلاني هو وعند حسابه تلفوني في المشقة يعني وأنا استعمالي كرو إلى أيام كعيدة أو تكتي على كل شفتو تعرفوا كتب سنة الفلاني يعني إن الفلاني كتب halka ku celi wax badan ba ummadda Soomaaliyeed la wadaagay wasiirro la jooga madaxweynihii imaam Axmed Madoobe la jooga xubno baarlamaanka kamid la jooga hotel uu degan yahay arinta oo idil waa been abuur sida wasiirka uu inoo sheegay أنا كنت وين شفت بقى عندي محمد عمر وحوي أنا الفلاني هو وعند حسابه تلفوني في المشقة يعني وأنا استعمالي كرو إلى أيام كعيدة أو تكتي على كل شفتو تعرفوا كتب سنة mar labaad ku celi dadka inta badan dhageysta waxay aad ugu adag yihiin waa la yiri ana maqlay iyo ana og laakiin jaal wasiir waxaan ka codsanayaa cid u tagtay haba yaraatee ma jirto inaad igu celiso Cabdi Maxamuud Cumar si ay meesha uga baxdo wararka qaarkood oo warbaahinadu ay la wadaageen ummadda Soomaaliyeed ee ku aadan in Cabdi Maxamuud Cumar loogu tagay hotel uu la joogo rag siyaasiyiin oo kamid yahay Axmed Madoobe laba jeer ku celi halka وأنا استعمالي كرو إلى أيام كعيدة أو تكتي على كل شفتو وأنا استعمالي كرو إلى أيام كعيدة أو تكتي على كل شفتو وأنا استعمالي كرو إلى أيام كعيدة أو تكتي على كل شفتو أيام كعيدة أو تكتي على كل شفتو aad baan u gartay marka cid aragtay Cabdi Maxamuud Cumar ma jirto xaaladdu halkaas ay maraysaa waxa raba marka ummadda Soomaaliyeed aragtidooda inay nala wadaagaan waxaad ogtihiin dhulka maamulka dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya meel sare iyo meel hoosaba waan idin iftiiminaya dhulka Soomaalida Itoobiya wuxuu hoostaga federal ka tirsan Itoobiya ayaa hadda talada ay hoostaga waa halka maamul ahaan halkaasi ayaa laga xukumaa haddii Itoobiya ay garowsatay qoomiyadii hore ee Tigreega in talada dalka la yiraahdo alla ilaahay uma qalantaane ku wareejiya talada oromada oo iyaguna qayb ka ah qoomiyadaha Itoobiyaanka wadan kale oo idinla la amray in meel kasta ay ka dhacdo isbedelo siyaasadeed oo halka laga dhigo waji cusub iyo siyaasad cusub oo hadda soo koraysa ayaa xisbiga talada dalka dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya waxay yiraahdeen haddii annaga xilkeena haba yaraatee laga hadlo wadanka gumaysiga u galay ummadda Soomaaliyeedna waa in ay qoray caaradii isaga celiyaan gumaysiga Itoobiya Itoobiya goormay soo dhalatay Itoobiya ma 2018 ayay dhulkaasi gacanta ku haysay Itoobiya ma 2018 ayay hoggaanka dalkaasi la wareegtay aaway markii hore miyaysan Itoobiyaanku ka howlgalayn gudaha Itoobiya haddaba sababaha inta badan keentay in xisbiga isbedel lagu sameeyo waxa ay wararku sheegayaan in ciidamada New Police ka howlgala dhulka
deegaanka Soomaalida Ethiopia boqolkiiba 90 waa hal qabiil qabaa'ilo kala duwan ayaana degan dhulka deegaanka Soomaalida Ethiopia qabaa'ilada degan ciidamadaasi ma matali karaan maxaa yeelay ciidamadu boqolkiiba 90 waa hal qabiil kaaga sii darane waa tababarka madaxweynihii hore haduuba isbedel dhacay waxa qasab ah in wax waliba ay isbedelaan ciidamadiina qayb bay ka noqdeen isbedeladaasi haddaba Soomaalida mar haddii dhulkii uu hoostagayo Ethiopia federaalka uu ka tirsan yahay uunan dhahaynin annagu federaalka kama tirsanin Soomaali weynaan nahay Ethiopian shaqo kuma lihin ma dhahayaan run iyo ilka waa la cadeeyaa aad ii dhageysta ma dhahayaan annagu federaalka Soomaaliya ka tirsanahay waxay leeyihiin federaalka Ethiopia ka tirsanahay haddiiba Ethiopia isbedelo ay ka dhaceen miyuunan saameyn ku yeelan karin dhulka deegaanka Soomaalida Ethiopia miyaynan qabaa'ilada dhowr iyo 10 sano la xukumayay ee iyagu xisbi daba taagnaa xisbigana oo weli leeyahay annaga haddii hoggaanka nalaga qaado waa ilaa iyo annaga in loo dhiibaa oo isbedelku u noqday aniga iga qaad aniga ii dhiib taa oo u cuntamay weysay bulshada deegaanka haddaba isbedelku halkaa ayuu ka dhacayaa marka waxa wanaagsan intaadan caroon noloshaadu ay wax kala bidin bal ku fikir dhulku ma dhul Soomaaliya hoostaga mase waa dhul federaalka Ethiopia hoostago hadduu federaalka Ethiopia hoostago waxa qasaba isbedelka Ethiopia ka jira inuu kaalin ka qaato xisbiganna waa in laga dhaadhiciyaa maadada ay warbaahinaduna ay qorayaan Ethiopian ay cadeynayso ayaa ah in federaalku uu qayb ka qaato isbedelada dalka ka jira haddii Tigreega talada dalka laga qaadayo orama ay qaadatay haddii la yiraahdo dhulkana waa dhul dhowr iyo 10 sano hal qayb kaliya ay maamulayeen waa in laga dhigaa federaal maxaa ku jaban haddii federaal laga dhigo marka waxa wanaagsan umadu inay taa aad u garato intaasoo faahfaahina waxaan idin siiyay waxay tahay inaad biyadhaca hadalka aad u fahantaan doodu ma taagno halgan ma taagno gumaysi weerar wada ma taagno dal la boobayo ee waxa taagan dhul ka tirsan Ethiopia mid aad u fahma dhul Ethiopia ka tirsan ayaa taagan tusaale Puntland waxay ka mid tahay federaalka Soomaaliya haddii maanta Puntland tiraado farmaajo i boobaya farmaajo isoo weeraray oo aniga dhulkayga doonaya inuu qaato ummadda kale ee aanan Soomaali ka soo jeedin sidee u fahmi karaan ileen Puntland waa dhul ka mid ah federaalka Soomaaliya dhulka deegaanka Soomaalida Ethiopia waa dad hogaankoodu u aaminsan yahay in Ethiopia ka tirsan yihiin haddiiba ay Ethiopia ka tirsan yihiin waa in isbedelka Ethiopia ka jira oo saameyn ku yeeshaa haddii laakiin la yiraahdo Abiy Ahmed markii uu Tigreega uu ka qaaday xilka waa saxnaa annaga markuu naga qaadana waa qaldan yahay waxa halka ka dhalan karta su'aal ay fahmi la yihiin siyaasadda geeska Afrika sidaa darteed isdaji noloshaada dib u baar xisbiga talada dalka haya waa tii uu xasuuq ka geystay dhulka deegaanka Soomaalida Ethiopia waa tii xabsigii ogaadeenaya lagu baabi'iyay ummad Soomaaliyeed waa tii hooyo lagu kufsaday waa tii dad lagu jirdilay waa tii intaasoo tacadiye ah dunidu ay la yaabtay ama kaaga iyo murugada muuqaalada jil ogaadeenaya dadku idil way ka argagaxayeen haddii marka xisbigu intaa oo qaladaada lagu arkayo miyuunan waqtigan xaq u lahayn xisbigu inuu fursad siiyo qabaa'ilada kale ee degan dhulka boqolkiiba 90 ciidamada howlgala waa hal qabiil boqolkiiba 10 waa qabaa'ilada kale dhulkuna waa dhul la wada degan yahay haddaba hoggaanka shacabka dhulka deegaanka Soomaalida Ethiopia fursad in laga siiyo qabaa'ilada kale ee ku nool adigu sidee baad u aragtaa gaar ahaan hoggaanka waqtigan 2018 beeraha ogaadeen iyo waliba dir yaa hoggaamin kara waad fahanteen insha Allah marka dhageystayaashu aragtidooda dhiiban doonaan laakiin waxaan rabaa inaan ka hormariyo waxa jiray dhiig fara badan oo lagu bandhigay dagaaladii ka jiray dhulka deegaanka Soomaalida Ethiopia loo ekeysiyay ayaa jira ummad badan oo aanan orama ahayn oo aan Soomaali ahayn oo la dilayo ayaa social media magac aanan jirin iyo dhul aan jirin baa lagu tilmaamay orama badan oo Soomaali badan oo la jir dilaya la soo bandhigay laakiin lama xaqiijin qofka la dilayo inuu yahay qof Soomaali ah yaa xaqiijin kara qofka dhulka lagu jiidayo inuu Soomaali yahay haddii codkan uu yahay qofka tiknoolajiyada fahamsan xasuuqyo badan baa Afrika ka dhacay xasuuqyadaasi badan waxay geysteen xasuuq lama iloobaan qabowro kala duwan baa Afrika ka jira dalal xasuuq oo ka dhacay haddii laga soo koobiyay muuqaal
cod oromaa la dul saaro ama cod soomaaliya la dul saaro oromaba ha u badnaatee miyaanan halkaasi laga dheexan karin dunidu inay marayso 2018 dadkuna ay fahmi karayaan muuqaalka dhabta iyo midka kale waxa jira oo muuqda ayaanu iftiimi doonaa caawa wariye reer Somaliland ah oo in badan u dhunduleelay arrimaha dawladda deegaanka Soomaalida Ethiopia oo wax badan oga arrimahaasi ayaan caawa telefoonka soo gelinaya wuxuuna ii sharxi doonaa oo kaliya dhibaatadii oo dabagalka ku sameeyay ee ahayd muuqaalada la duubay dhiigga faraha badan ee webiga buuxiyay ma Soomaali baa webi dhan dhiigoodii buuxisay qofka labada lugood laga qabtay ee lagu jiidayay wadada oo ay dhagax ku dilayaan dad aan wajiyadooda la arkayn aad ii fahma qof baa labada lugood laga qabtay waa la jiidayay qofka jiidaya iyo qofka dhagax ku tuuraya wajigiisa waa la qarinayay maxay tahay sababtu uma dhalan geeska af uma dhalan labada dal ee Ethiopia iyo Soomaaliya marka wajigiisa dad aragto waxaad garan kartaa marka inuu Ethiopian yahay ama Oromo yahay maxaa loo qariyay wajiyadooda maxay tahay sababta muuqaaladaas oo dhan waqtigan lagu soo beegay wariye Ciise ayaa arrintaasi baarayay in muddo ah isaga ayaan u fasaxaya bal inuu aragtida dadka la wadaago xasuuqii lagu faafiyay social media tambeenta iyo midda saxda ah Ciise habeen wanaagsan habeen wanaagsan Cabdullaahi aad ku salaamayaa waa ka qaaday soo dhawo bal ummadda Soomaaliyeed iyo kuwa Somaliland iyo guud ahaanba shacabka dawladda deegaanka Soomaalida Ethiopia la wadaag bal dhiigii faraha badnaa ee social media qabsaday dad fara badan oo dhagax lagu dilayo meeqa run ah meeqana beera walaal xaqiiqatan waxa weeyaan arrimahani waxay u dhacayaan si cakiran oo ummaddu aanay fahmi karin qofku ilaa iyo uu hoos ugu daadegay waxa jira mooyaan waxa fiican dadka Soomaaliyeed waxay ka maqlayaan baraha bulshada waxay ka maqlayaan siyaasiyiinta inay iska kala shaandeeyaan oo yiraahdaan maxaa xaqiiq ahayn waxay ognahay siyaasiga campaign ku jira in uu even dhiiga dadka ku daadiyo campaignkiisa inay easy u tahay sida Soomaaliya ka dhacda meelo badan oo Afrikaana ka dhacda hadaba arrintan maxaa ka xaqiiqa bal hadaan dul istaago way jirtaa oo Soomaaliya iyo Oromo way isku kaceen way jirtaa oo Soomaalida qaad faham baa helay Oromo oo 50 qarni ku soo jirtay gumaysi ayaa maanta idin doonaysa idinna inay idin gumaysato adeeg waayo dalkiiba Ethiopia dalka Ethiopia waxa lagu yaqaanay oo caan ku ahaa gumaysi dadka oo la cadaadiyo qofka oo bila xurriyad noqda qoomiyad ha noqdo ama qof ha noqdo midna aanu shakhsiyadiisa waxba ku samayn karin tii iyaga oo ka duulaya siyaasiyiinta Soomaalida ee jooga deegaanadaas waxay lahaad ka saareen inay wixii walba Oromo ku shaambadeeyaan ka waran maanta hadii Soomaaliya madaxweynaha Soomaaliya hadii uu digreeto soo saaro oo aynu nidhaahno mareexaan baa digreeto soo saaray oo hadii madaxweynuhu amar bixiyo oo aynu nidhaahno mareexaan baa amar bixiyay oo sida aad adigu iminka warbixintaada ku xusaysay hadii maamul kamida maamulada Soomaaliya ciidamada federaalka ee Soomaaliya leeyihiin ay tagaan oo la yiraahdo ka waran ciidamadii mareexaanka loo yimi hada aqligaas xaqu ka shaqeynaya si uu shaqeynaya waayahay tan waan u soo noqonaynaa waxaan rabaa dadka faraha badan ee la gowracayo dadka dhagaxa lagu dilayo oo la qarinayo qofka dhagaxa ku dilaya oo ummadda argagax ku beeray meeqa run ka ah meeqana been ka ah walaal way jirtaa dad la dilay oo waxa weeyaan aan fara badnayn laakiin waa la buunbuuniyay ma jirto qof sida baraha bulshada loo jiijiidayo meelahan oo kale dad loo jiijiiday oo la dilay oo sidaa loo galay ma jira laakiin dad isku mudaharaaday oo kacdoon isku sameeyay oo isqalad fahmay oo waxa weeyaan rabshadan ka qayb noqday way jiraan labada dhinacba waxa jira oo kale Soomaaliya Oromo qabaa'il oo dad reer baadiye oo waxa weeyaan iyaguna horena isu leeyin jiray iminkana xilligii Cabdi Ilay uu waxa weeyaan doonayay inuu xukunka sii haysto uu isku sii diray oo ciidamadiisii intay Oromo soo laayeen meedkii dhex daadiyeen magaalooyin ama xaafado Soomaaliya u badan tahay si Soomaalida iyo Oromada dhulka degan ay isu laayaan nidaamkan oo dhan iyo shaqadan oo dhan waxa ka dambeeyay nimankii Tigreega ahaa ee uu la shaqaysan jiray Cabdi Maxamuud Cumar iyo kooxdiisu oo doonayay in dagaal iyo qas la geliyo xukunkan Oromadu maanta ay la wareegtay waxay doonayeen sidii kii hore uu fashilmay isu casilay ee kacdoonada loogu casilay in kanna dagaal loogu casilo kanna uu fashilmo waana siyaasad cad oo Soomaaliduna garan karto qof kasto caqli leh Oromaduna garan karto run ahaantiina ma jireen baan oran karaa ma jireen
mana joogno maanta meel waxa weeye inta video la dhiggareeyo Rwanda video la dhiggareeyo Afrikada dhexe la yiraahdo Oromo sidan ina soo leh Oromo inoo soo hanjabaysa waxaan arkay aqli xumadu xitaa meelaha ay gashay qaar intay Facebook iyo blog samaysteen qoraal ay soo qorayo leh nin Oromo ay ugu yiri berberaan u tagaynaa oo saasaan u tagaynaa bal hadda aqliga dadka loogu sheekaynayo dawlad waa xilliga ay joognay casriga aynu marayno oo aqli bay leedahay arintaasina waa xaqiiqo walaal maaha isku dhacyo way dhaceen Soomaalida iyo Oromada u dhaxeeya way la xaliyay odayaasha deegaanada galay waxaad iminka YouTube-ka meel walba ka helaysaa oo aynu wada share garaynayo arkaynaa odayaashii deegaanadii la isku leeyay oo Soomaalida iyo Oromada is hor fadhiisteen heshiisyo kala qorteen wada hadleen mar haddii wada hadal iyo walaaltinimo iyo wixii dhacaba waxa weeye lagu dhamayn karayo dadka deegaanka wada deganayeen maxaa keenay Boosaasoy Burcoy Berberoy idinka la idin soo socda hada waxa maxaa keenay waa inay dadku fahmaan weeye xaqiiqada iyo waxa meesha ku hoos jira waayahay waxaan rabaa marka qof wariyaa tahay in badan ayaad wax ka qortaa dhulku wuxuu hoos tagaa Ethiopia siyaasiyiinta joogta jigjigana waxay cadeeyeen inay yihiin dad Ethiopiana haddii Ethiopia isbedel ka dhacay xisbiga talada dhulka deegaanka Soomaalida Ethiopiana uu leeyahay haddii xilkana laga qaado gumaysi buu galaya wadanka maxaa kaaga soo baxay ولا حسبي وران ما حتى عين كعدة آمسين حتى حسبي وران ما Soomaalidu iyadoo dalka wadalle xisbigana wadalle ayaa haddana waxa jira dadku waxay soo taageeraan Soomaalidu waa taqaanayo kaga weyn marmarka qaar aynu oran karnaa diinta waxa qabiilka la yiraahdo waxa diidan waxa weeye dagaalkan dabada ka riixaya waa reer khaas ah oo iyagu u arka in dantoodii ay meesha ka baxayso ama siyaasad ha noqoto ama ha noqoto gorgortan kale ama ujeedaday doonaan ba ha noqoto dadka khaaska ah waxay adeegsanayaan marka magaca Soomaaliya soo kaca Soomaaliyeena soo raaca Soomaaliya Oromo ay nagu soo duulaysa iyagoo uga dhigaya dadka kale ee deegaanka la leh ee xaqooda u doodaya inay Oromo yihiin ama ay Oromo garab soo siinayaan ama ay Oromo soo horkacayaan siyaasad noocaas isqalad fahanka marka Soomaalida lagu duulay maskaxdeedu waa Soomaalida ka baxsan deegaanadan dadka degan laakiin inta deegaanadan degan ee xogogaalka ay way og yihiin xaqiiqada dhabta ah iyo waxa dhabta ah ee meesha ka jira tusaalaan ku siinaya golaha baarlamaanka ee deegaanka waxa uu yeeray oo si sharaf leh ugu yeeray dawladda federaalka ee ka tirsan yihiin waxa la doonayay sidii maamulkii hore ee meesha uga baxay loo bedeli lahaa maamul Soomaaliya u dhan tahay aan cidi ka cabanaynin cadaalad ku dhisan la isla afgaran lahaa sidii loo sameyn lahaa waxay markiiba ku doodeen oo yiraahdeen intoodii doonaysay inay iyagu meeshan xaq darro ah iska sii haystaan ma imanayna Ethiopia had sabab ma tegayno sababtaan u tegaynina waxa weeye nin gaar ah bay dawladdu wadataa hadee nin gaar ah ayay dawladdu wadataa iyaguna hadda nin gaar ah bay u doodayaan ugu waxay u doodayaan iyagu waa ninkay doorteen bugta ahay maalintii Cabdi la xidhay bay yiraahdeen madaxweynaha dooran iyadoo aan dawladda lagala tashanin iyadoo aan dadka bulshada deegaanka lagala tashanin iyadoo shirdir dhaba ka socdo oo madaxdii iyo odayaashii deegaankuba ay shirdir dhaba fadhiyaan ayay inta iyagu kaligood dhowr iyo 10 qof waliba ma aha dad badan intay meel soo fadhiisteen bay yiraahdeen nin baanu dooranay dawladdu way joojisay wayna diiday waxay amarkii iyo taladii deegaankaba hoos geysay wasiiradii federaalka ugu jiray Soomaalida kuwoodii ugu awooda badnaa uguna kalsoonida badnaa waxayna amartay inay iyagu dadkooda sii amraan oo si u sii taliyaan ilaa iyo inta maamul deegaanka la helayo waayahay hadda isbedelka dalka ka jira Ethiopia in la qaybiyo su'aal badan baa halka ka taagan waliba waxa aad la isku qabadsiinayaa beelo ay ka mid tahay beesha diro kale waxa la leeyahay Ethiopia ama Oromada ayayba hoos tagtaa iyada ayana ka tusaale qaadataa xaq ma u leedahay markaad eegto beesha direed in ay hogaamiye ka noqoto dhulka deegaanka Soomaalida Ethiopia adigoo ka duulaya eedeymaha qaar oo la leeyahay beeshaasi waxa sheegatay Oromayna asal ahaanba u hoos tagaan walaal adigoo raaliya bal dadkana aanu cadeeyo inta ina daawan doonto videogeena ha ogaato Soomaalida deegaanka degani waa cid walba way horta leedahay dir daarood hawiya ku jira nin ka maqani ma jiro waa lagu kala badan yahay oo majority anagu waxaanu aaminsanahay inuu dir ka yahay xaqiiqduna waa sidaa laakiin waxa jirta propaganda suuqa la geliyo oo dadka qaar ay caan ku yihiin inay meel iyagu ay joogaan haddii 4 qof ka joogaan xitaa ay ka dhigaan inay meesha iyagu iska leeyihiin
maanta waxaan maqlaa anigu in reer Soola baan ahay Sool baan u dhashay baraha bulshada waxa haysta Sool iyo Sanaag iyo Cayn in reer Soomaaliyeed leeyahay hadda ana u dhashay oo deegaanka ka soo jeeda la iima yaqaan anigu inaan ahay markaan hadlo waxa lagu oranayaa war reer Burcay reer Hargeysa taadu Hargeysa Burcad leer marka caqliyan dib ugu noqo oo dadka Soomaaliyeed laga dhaadhiciyay deegaankan inuu deegaan ogaadeen iyo leeyahay oo ogaadeen leeyahay oo Soomaali kale aanay waxba ka ahayn dadkii kalena Oromo qaar lagu sheegay qaar la yiri waa dadka minority oo aan waxba ahayn haddaba siyaasadaasi maxay ka turjumaysaa waa in kursigan iyo maalkan iyo taladan ummadda Soomaaliyeed wada leedahay ay cid gaar ah iyo reer gaar ah ku koobnaadaan xulufada timi arinta Oromo iyo Dir ayaa timi shalay waxa jirtay arrin la yiri Jabarti Ismaaciil iyo Tigray Ismaaciil waxa jira Jabarti Ismaaciil adigu daarood sheegtay inay yihiin Jabarti ka soo jeeda iyo Tigray oo la yiri Jabarti bay ka soo jeedaan baa la walaaliyay sababta loo walaaliyayna waxay ahayd xukunkii Cabdi Maxamuud Cumar waxa meesha ku hayay niman saraakiil oo Tigray waa kuwii Muqdisho xasuuqayay gabdhaha soo diray Tigray Oromo ma ahayn maanta iyadoo Muqdisho wixii ka dhacay la ogaa oo Soomaali wixii uu Tigray ku sameeyay la ogaa sidii ogaadeen shacabka ugu garaacay in la arkayay haddana waxay doonayaan inay naga dhaadhiciyaan Oromo cadawgeena Tigrayna waa walaalkeen ninka caqligiisa la caayay baa caynka loogu sheekaynaya waayahay waxaan rabaa marka in dhanka kale ee awoodda ciidan ee dhulka deegaanka Soomaalida Ethiopia ee New Police baa la yiraahdaa 90% warbaahintu waxay og tahay in ay hal beel kaliya ka soo jeedaan ciidamada ma la oran karaa ciidamo dhulka deegaanka Soomaalida Ethiopia waqtigan Soomaalidu ay ku qanacsan tahay waa dhulka Soomaalida degan walaalo dhulka dadka runtii leh baa ka seexday waxaana seexiyay dawladii rejiimkii xumaayadka ee Ethiopia haystay waxa weeyaan baqdin cabsi caburin ayayna waxba u sameyn kareen laakiin waxa meesha socdo oo dhan dadku kuma qanacsana tusaalan ku tusaya maamulka Soomaali galbeed 29kii markii la aasaasayay Soomaalidu beelay wax ku qaybsatay Dir Daarood iyo Hawiya wax lagu qaybsaday waxa lagu qaybsaday 121 xildhibaan oo ku jiray xildhibaanadii deegaanka loo sameeyay majority waxa ka ahaa 360 xildhibaanna qaatay maalinta ay talada Soomaalida gacantooda ku jirtay nimanka Dir la yiraahdo Daarood oo dhan markaad isku darto 350 xildhibaan buu qaatay okay awooddu hadaba xagay ka timi iyo afgembigan dambe awoodda iyo afgembigu wuxuu ka yimi military-gii meesha qabsaday ee Tigrayga ahaa ayaa waxay awood dheeraad ah siiyeen inamo iyo reer gaar ah iyagoo u arkayay inay jabhada la dagaalamaysa iyagoo qoray yihiin Soomaalida awoodda leh iyagoo qoray yihiin dadkii kale ka aamuseen oo is yiraahdeen bal walaaladiin waxay idinku taliyaan eega maanta Soomaalida kale waxay lahayd war nimankan hadda waxay idinku oo wax loo adeegsado dadkiina programka noocana lagu shufto awoodahan oo dhan Soomaalidu kuma qanacsana waxaana la doonayaa walaal iminka in cadaalad sida Ethiopia ay cadaalad uga dhalatay looga dhaliyo maamulka Soomaalida dadkii majority-ga ahaa majority noqdaan kuwii minority-ga ahaa ay minority noqdaan wixii lagu heshiiyo lagu wada dhaqmo laakiin inaad madaxayga qabsato ninna ka yeeli maayo inaad madaxayga qabsato marna tiraado Tigray baa walaalkeena marna tiraado Oromo cadawgeena maalin baad inaad ciijayso qof yeelayo damiir lima jiro waayahay ugu dambayn xisbiga talada dalka horena u doortay madaxweyne haddana madaxweyne cusub doortay eedeymo ayaa jira oo horey loogu eedeynayay oo ay Soomaali ka galeen haba ugu badnaatee dhibaatadii jil ogaadeynaya markii la eego qaabka ay hadda u diidan yihiin hoggaanka sharciga Addis Ababa iyo shalay sidii hoteelada ama aan raahday jil ogaadeynaya wixii ka dhacay markaad isbarbar dhigto qof muddo dheer wax ka qorayana waad ahayde maxaa kaaga soo baxaya niyo maanta wuxuudii oo dhan way kala daateen xabdaradii oo dhan maanta way kala daadatay iyagii baana ceeb ku keentay maanta sababtan ku sheegayay jeelashii ay samaysteen dadkii ay xasuuqayeen Soomaalidii kale la dhibaateynayay iyagu waxay isu geysanayeen xaqii baa dilaacay maanta oo nimankii dhibaatada geysanayay waxay ku silcayaan maanta Hargeysa oo ay dhuumasho ku joogaan oo isleeyihiin tolo goorma la idin qabanaya la idin dhiibaya waxay ku silcayaan Boosaaso waxay ku silcayaan dhulka Soomaalidu degan waxay la baxsadeen gaadiidkii iyo wixii hanti ay gacanta ku hayeen even saxaafadii dawladda website-yadii iyo waxyaabihii ay qaadan karayeen oo dhan waxay u adeegsadaan inay shacabka kiciyaan iyagoo deegaano kale ku suganaan Ethiopia ba ku sugnay okay maanta
halka laynagu leeyahay war dagaal baa Oromo iyo Soomaali ka dhacay new bolis waxay laayeen oo ay xasuuqeen maantadan aynu joogno dad wajaale ku nool dad xadka Somaliland iyo Ethiopia ku nool oo Soomaaliya waxa weeyaan dadka gawaaridoodii bay dhaceen 12 gaari bay gaxaysteen oo Soomaali shicbi leedahay aan caadi lahayn waxay gaxaysteen oo bareegii iyo dhulkii biyaha dadka ugu jiraan bay sun ku dareen waxa weeyaan maamulkii deegaanka gudoomiyihii baa dhaawaca magaalada wajaale oo iminka waxa weey dhakhtar ku jira markay haddaba taasi dhacayso Soomaali buunbuuninaya oo la cid baa nagu soo duushay ciidamo beela baa soo duulay maad arag laakiin waxaynu arkaynaa Soomaali buunbuuninaysa oo le Oromo jigjiga soo gashay iyo tan kale jigjiga soo gashay oo ciidamo federaal ka hadlaya markaynu waxa soo dhan isku soo duubno war nimankan xaq daradii ay geysteen baa ku dhacday tiibaana maanta hoosta waxa weeyaan ka haysata iyagiina wali waxay ku doodayaan oo taagan ismay aqoonsan wali ismay oran waad qaldanteen wali Soomaalinimadii kumay soo noqon waxay isleeyihiin dadka ma jara habaabi iminka jig caasimada sababo waxa ku sugan Aadan Barre Ducaale waa xildhibaan Kenya oo Soomaalida xaggaas soo doorato waxa ku sugan Axmed Madoobi waa madaxweyne Soomaaliya maamul goboleed kamid ah waxay u yimaadeen in pressure ay ku saaraan dawladda Ethiopia in nin ogaadayna loo magacaabo xilkan adeeg waxayna ka dagaalamayaan oo diidayaan in nin cid kale ay meesha soo galo awoodan laga muujinayo baraha bulshada iyo dagaalada Soomaalida iyo Oromada ee la leeyahay ka caaw Soomaaliya iyo wax laayana siyaasadaas ay dabada ku haysaa oo waxa lagu doodayaa Soomaalida annaga xidhna furnana waa inaad annaga waxna siisaan markaas aan dejinaynaa dadka haddii kale Ethiopia ay ogaada Soomaali kale oo wax idin qaban karaa ma jiro aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay wariye reer Somaliland isla markaana kamid ah suxufiyiinta sida gaarka ah arrimaha dhulka deegaanka Soomaalida Ethiopia wax ka qora isaga ayaana qaybta falanqaynta hore ee barnaamijkayga la qayb galay ciise mahadsanid aan ku soo laabto marka dhageystayaasha aragtida qof kasta aragtidiisa ayuu cabiri doonaa mar kale ogow sababta keentay isbedelka dhulka deegaanka Soomaalida Ethiopia hal fasir oo kaliya ayaan idinka siiyay fasiritaanka aan idinka siiyay waxay tahay Ethiopia ayaa isbedel soo food saaray dhulka deegaanka Soomaalida Ethiopia hoostaga hadduu Ethiopia hoostagana waxa qasaba isbedelka dalka ka jira inuu saameyn ku yeesho horta marka hore taa ogow marka xiga waxaan rabaa in ummadda aan u iftiimiyo intaan dulucda dooda u gudagelin waxaad ogtihiin dhulka waxa ka jira siyaabo kala duwan micnooyin kala duwan oo loo sameeyay xisbiga talada dalka haya horena u soo doortay Cabdi Maxamuud Cumar haddana madaxweyne cusub isniintii dhawey doortay waxay yiraahdeen haddii annagana laga qaado waa gumaysi cad oo ummadda Soomaaliyeed ee dhulkaasi lagu soo duulay shalay Ethiopia ay hoostagayeen maanta Ethiopia hoostagan sida darteed isbedelka dalka ka jira ayaana saameyn ku yeelanaya hadiiba Tigreegu uu gartay in laga tambadiyay oo Oromadu ay ka tambadiyeen halkaana laga dhiso waji cusub oo Ethiopia ay yeelanayso dhulka deegaanka Soomaalida Ethiopia hogaaminta shacabka degan dhulkaasi miyaysan fursad iyo xaqba u lahayn qabaa'ilada halkaasi ku nool gaar ahaan hoggaanka dalka 2018 fadlan anagu qabiil kama hadlayno isbedelka dalka ka jira ogaada Oromona waa qabiil Tigreena waa qabiil sida darteed dhulka waxa la go'aamiyay wajigii Tigreega in laga bedelo laga dhigo mid qof waliba uu ku qanacsan yahay dhulkiisa ifaham maaha qabaa'il laga dhex abuurayo Soomaalida af Soomaaliga dhawaqiisa ha dhageysanay micnihiisa faham dhulka Oromo ayaa loo dhiibay Tigray ayaa shalahaysay qabiil baa qabiil kale hogaankii dalka u dhiibay sida darteed dhulka deegaanka Soomaalida Ethiopia Soomaalida ku nool miyaysan xaq u lahayn hogaanka dalka inay qayb ka qaataan eega militarigii new bolis 90% waa hal qabiil eega dhulkii iyo xisbiga 90% waa hal qayb eega miyaynan halka kaaga soo baxaynin marka in wali dhaqankii Tigrayga uu halka ka taagan yahay oo aynan haba yaraatay qayb ka ahayn federaalka Ethiopia hadday dhul Soomaali yihiin waa laga gardaray Ethiopia inay amartaan xaq uma laha laakiin hadday dhul Ethiopia ka tirsan ay yihiin maxaa diidaya inay u hogaansanaadaan hogaankii shalay ay kamid ahaayeen maalmo ka hor Abiy Ahmed wuxuu ahaa hogaanka ugu wanaagsan ee dhulkaasi laga amaanayay maanta wuxuu yiri isbedel baa la doonayaa ee qabaa'ilada dhulkaasi degan waa inay xaq qayb ka qaataan xaq u yeeshaan sida darteed faafahintu waa iga intaa ha u qaadanin qabiil Soomaalida kaliya ku eega dhulka qabiilku waa dhulka saameynta Ethiopia oo dhan ayuu ka jira Tigray waa qabiil Oromo waa qabiil sida darteed ogaada qoomiyad walbaba isbedel baa laga rabaa shalay Tigray wuu iska haystay maanta Tigraygi baa meesha laga saaray Abiy Ahmed wuxuu yiri wadanka isbedel baa laga doonayaa Soomaalida marka ku nool dhulka deegaankaasi xaq ma u laha miya fadlan aragtidaada dhibo dir iyo ogaadeen waqtigan yaa hogaamin kara oo samata bixi kara dhulka deegaanka Soomaalida Ethiopia maxaan qabiil u dhahay mar kale aan kugu celinaya
ogaada madaxweyne walbaba tusaale haddii ciidamada federaalka soomaaliya ay weeraraan puntland mareexaana puntland weerara ma dhahaynaa marka fiiriya wax fahma militariga soomaaliya hadday puntland weeraraan ama ay galmudug weeraraan ma waxaan dhahaynaa mareexaana galmudug weeraray ma waxaan dhahaynaa mareexaan baa puntland weeraray ma waxaan dhahaynaa mareexaan baa hargeysa weeraray ciidanku marka uu muqdisho joogana ma ciidan soomaaliyeed buu noqonayaa markuu soo baxana ma wuxuu noqonayaa ciidan qabiil haddii la yidhaahdo militariga weeraray dhulka deegaanka soomaalida etoobiya waa oromo waxay la mid noqonaysaa ciidanka dowladda oo weeraray galmudug oo la yidhi waa mareexaan oo madaxweynaha dusha loo saaray wax aqliga gelayo haba yaraatee malaha warbaahintuna way xaqiijinaysaa arrintaas su-aal baa dhexda uga taagan fadlan garo madaxweynaha soomaaliya afgooyo weeraray beelweynta raxaweyn ma waxay leeyihin mareexaanana soo weeraray dowladda soomaaliya markii ay afgooyo weerarto ama ay baydhabo militari u dirto ma waxay leeyihiin reer baydhabo mareexaanana soo weerar may dhahayaan jawaabtu haa ma samaya jawaabtu waa maya ciidankii dowladdaa weeraray militariga jigjiga tegana ma noqonayo militari oromo ah maxaa yeelay waa militarigii federaalka wuxuu la mid yahay kelmadda micnaha aan hadda tusaalaha idinkugu soo qaatay ayay qayb ka tahay militarigii soomaaliya kismaayo weeraray reer kismaayo ma waxay leeyihin mareexaanana soo weeraray maya marka fadlan annagu waxaan nahay dugsigii waxbarashada waxaan iftiiminaa runta waxaan ummadda dhahnaa ka tusaale qaata beenta waxaanu ka hortagnaa siyaasiga danleyda ah waxaan ummadda u iftiiminaa xaqiiqdu halka ay jirto isbeddel iyo cadaalada inay timaado ayaa hogaanka dalka laga doonaya addis ababa looga yeeray waa diideen waxay yidhahdeen annaga maba tegayna maxaa yeelay waana aqoonsan weyseen dhulkii deegaanka soomaalida etoobiyana waan ka tirsanaa inagana nama aqoonsanidiin marka waxaan rabaa codka shacabka inaad ogaataan fadlan qabiil ha u qaadan isbeddelka ka dhacay tigree dhowr iyo 20 sano ayuu dalka maamulayay waxaa la yidhi sorry oromo janis hala siiyo sidaa darteed federaalkuna wuxuu qayb ka noqonayaa in fursad la isi siiyo meel waxaa degan hadda nimanka la yidhahdo amxaaradaa degan amxaarada hogaankoodii isbeddel baa soo food saaray taliyaashii ciidankii waa la bedelay wasiiradii waa la bedelay marka dhulkan markii hala bedelo la yidhahdo ma waxay noqonaysaa micno kale fadlan militariga weerare jigjiga wuxuu la mid yahay ciidanka militariga soomaaliya oo baydhabo weeraroo la yidhi mareexaana weeraray waxay la mid noqonaysaa ciidanka dowladda soomaaliya oo jowhar weeraray oo la yidhi jowhar mareexaan baa jowhar weeraray wax aqliga gelayo haba yaraatee maaha taa fadlan aragtidaadu ha shaqayso xisbiga talada dalka hayana waa qayb ka mid a xisbiyadii soo shaqeeyey qalad iyo saxba wuxuu dalkaa ka geystay sidaa daraaddeed caawa aragtida aan ururinayo ha u qaadanin qabiil iyo dad la kala saaraya haba u qaadan muhiimadda aynu leenahay waxay tahay dhulka deegaanka aad adiga u taqaano dhowr magacaa loo yaqaanaa waxaa loo yaqaanaa dhulka soomaali galbeed waxaa loo yaqaanaa ogaadeen waxaa loo yaqaanaa kilinka shanaad waxaa loo yaqaanaa dhulka deegaanka soomaalida etoobiya adigu waxaa doonto u garo ma aaminsan tahay in fursad la siiyo dadka degan dhulkaasi gaar ahaan beelweynta dir xaqa ma u leeyihiin in iyaga halkaasi la geeyo fadlan aragtidaada dhiibo ha ka caroonin in midnimada iyo kala dambeynta ha ka caroonin dhulkaas gumaysi hadduu ku jiro horay ugu jiray kama hadlayno waxaynu ka hadlaynaa 2018 dhulkaa oo ay hogaamiyaashu qirayaan oo ay leeyihiin etoobiyaanu ka tirsanaa isbeddelkan ay diidayaan telefonka aad soo wici karto fadlan aragtidaada telefonaad uga qayb qaadan doonto hadduu alla idmo habeen wanaagsan asalaamu calaykum soo dhawow aragtidaada 2018 dhulka deegaanka soomaalida etoobiya yaa samata bixi kara labada qabiil ee hadda hogaanka dalka midna etoobiya ay leedahay ha loo dhiibo midna ay horay xisbigaasi talada dalka haya ay qayb uga ahaayeen calaashaan dir iyo ogaadeen waqtigan yaa samata bixi kara dhulka deegaanka soomaalida etoobiya balwaano markaan arrintaas fikirkayga ka dhigto horta barasho wanaagsan waynu isnaqaanaa laakiinse anigu waxaan ku dhashay waddankan loo yaqaano ogaadenya ama kililka shanaad nin walba siduu u yaqaano maasha allah weliba waxaan ku dhashay gobolka wardheer aad iyo aad aqoon fiicanna waa u leeyahay dadka degan iyo deegaanka iyo siduu loo kala degan yahay iyo sida sistemadii si soo bedelay ee kan cabdi maxamed cumar uu dambeeyey ilaa kuwa ka horreeyey aad iyo aad saaxiibkay hadda iga horreeyey oo khadka ku jiray oo aad tiri waa wariye wax qoraa wuxuu sheegtay isagu sool inuu ku dhashay haye aniga laakiinse waxaan ugu dhashay kililka mana iyo ogaadeen waa gartay haddaan usoo laabto oo taa kasoo daadego oo usoo laabto labada beeleed oo maanta laysku hayo yaa hoggaanka xaq u leh inuu dalkan maamulo horta markaan kala saaro oo aan kugu kala qodobeeyo
waa mid horta waddankan waa waddan Ethiopia waa gartay militariga Ethiopia meel kasta oo xaq wuxuu u leeyahay waddanka kamida ee wax ka jira inuu ka hawlgalo waa gartay cid ka hor istaagi karta ama cid ka celin kartaana ma jirto waa gartay taa markay ka soo degto xuduudaha waddanka oo dhan boodharrada Ethiopia oo dhan waxa sugaa amniga waa military waa gartay taa markaan kasoo degdego oon Soomaali ahaan usoo degdegno ismaamulka Soomaalida aan usoo degdegno ismaamulka Soomaalida wuxuu leeyahay oo aan horay u jiri jirin 10 sano ee Cabdi Ilay uu xukumay oo uu yeeshay ciidamo la yiraahdo New Police waa gartay waxaa sameeyay New Police waxaa sameeyay ciidamadaas Maxamed Cabdi Cumar Cabdi Ilay ninka loo yaqaano baa sameeyay haye waqtigu sinta madaxweynaha inta noqon hogaanka nabadgelyadu ahaa haye hogaanka wuxuu ahaa mar sharciyadu soo maray oo migration ku soo maray haye adigu xafiisyo badan oo kala duwan oo waddankaagu soo mara waa gartay aakhirkii madaxweynuhu noqon waa gartay wuxuu ku guulaystay inuu gaarsiiyo in wiil Soomaaliyeed qori inta loo dhiibo oo la hubeeyo oo la tababaro uu askari waddanka u taagan uu noqdo boodharradiisa sugo waa gartay qori aakaa laguma aamini jirin Soomaalidu ka horreysay haye taas waa midaas waa yahay marka adigoo dhulkii ka soo jeeda waxaan rabaa inaan kaa weydiiyo su'aal eedeymaha dhulka waxa la yiri ilaa muddo hal qayb kaliya ama qabiil ka mida qabaa'ilada degan uunbaa hogaanka dalka qabanayay adigoo dhulkii ku dhashay muddo ku noolaa waqtigan 2018 xaq ma u leedahay oo ma is leedahay nidaamka dalka hadday hogaamiyaan labada beelood midkood الله إله دلكو سمت بحين بوغاريا دولك ديغانك سوماليدا إثيوبيا كهادلاياي لبدا بيلود beesha aad isleedahay hogaanka dalka waqtigan fursad bay u helayaan adigoo ka duulaya isbedelka waa Abiy Ahmed bilaabay yay kula tahay waqtigan iyo qabiilkee kula tahay hogaanka madaxweyne in hadda la siiyo oo adigoo dhulkii ku dhashay caawa u codaynayso waxaan anigu u codaynayaa oo aragtidayda aan ku sheegayaa waddanka maanta sideeda waddanka kan waxa u soo halgamay hal reer haye reerkaas waa ogaadeen waa gartay aniga dirta la sheegayo horta maba aqaan oo dad ku dhex jiro dhex degan inay jirto waa dhici kartaa oo meelo badan bay ka degan yihiin bir firsan laakiinse boorarada ogaadeen jidwaad abiskuul iyo waxaasi geri waxa la yidhaahdo isaaq harti oo qayb degan dad kale oo maanta dadka Soomaalidu soo dhex degan tahay oo shiiqaalo oo dirlo oo iska firfirsan laakiinse number 1 waddanka markii la kala saaro waa ogaadeen xooggiisa number 1 markay noqoto jareer baa degan hawiya degan cid kasta degan intaas oo Soomaali in waddanka degan wax gobolka u dagaalama u soo halgama jihaad u soo gala ama Ethiopia nacayb ha noqoto ama xurriyad banaan ha istaagay ogaadeen baa ka jira aadiyad waxa xabsiyada waxa militariga Soomaaliya 30 sano la dagaalamay ogaadeen buu ahaa waa gartay waxa hadda New Police inta sameeyay ka boodar xasimay oo dadkooda xabsiyada ku guray qaybna waddanka ka eriyay oo nabadgelyada ku soo dalbaalay waa ogaadeen waa gartay taas waxay ku tusaysaa dadka kale inay aysan waxba ka ahayn waayahay marka waxaad caawa cod ka siinaysaa ogaadeen waxaadna leedahay ummadda ha laga dambeeyo iyaga mooyaane ummadda qof kale ma sabata bixin karto aniga gobolkan ku dhashay afar gobolna waa leeyahay anigoo nin harti aanahay afar degmo waxaan leeyahay 2 gobol iyo intaasoo kala degmo gobolka ninka kaliya oo ogaadeen markay soo raacdo ugu gobollo badan ugu dhul weyn baan hay ka odhi xaqna sababtoo ah hal wiil igama dhimin Ethiopia lama dagaalamin kuma soo jihaadin al-Ittihad kula soo dagaalamin qolna nafku kula soo dagaalamin hadda iyaga isku laayeen oo waddankii nabadgelyo ka dhigeen oo dadkooda ku soo laayeen ninka maanta af Oromada ku hadlaay oo aan waligiisba dalka u soo halgamin hal wiil oo asagu u dhashayna uu soo dhiman see xaq uu yeeshay inuu dalkan samata bixiyo maanta
وسؤال تاجر لكن waxa kaaga jawaabi doona saaxiibada kale ee aan adiga kugu fikrada ahayn waad mahadsan tahay sharaf bayna ii tahay adigoo dhulkii ku dhashay caawa inaad barnaamijka ka qayb gasho mahadsanid salaamu calaykum habeen wanaagsan وعليكم السلام walaal soo dhawow aragtidaada ku biiri waqtigan hogaanka dhulka deegaanka Soomaalida Ethiopia oo in muddo ah hal garab kaliya oo hogaaminayay ayaa la yiri isbedelka waa inay qayb ka qaataan beelweynta dir iyo ogaadeen yaa ummadda ila fahan qabiilka kama hadlayo hogaanka koowaad siyaasigee labadaasi beelood aad isdhihi kartaa alla ilahe waa inuu siyaasiga hogaaminayo dalka uu ka dhashaa labadan beelood mid kamid ah waa dir iyo ogaadeen ku soo dhawow aragtidaadana ku biiri waa ku soo dhawaaday walaal Cabdullaahi Balwaan aad baan ku salaamaya barnaamijka kowde waa gartay waa ka qaaday waxaan ka dhibanayaa aragtidaydan ka dhiibanayaa sax waxa weeye horta qof kasta anigu waxaan jeclahay qofkii wanaagsan inuu hogaamiyo de qof wanaagsan uu baa hogaamin karaa waa gartay ama qabiil yar ka dhashay ama qabiil badan haye waxaa kaloo jirta reer kanaad ogaadeen ka leedahay horta absamaa la yidhaha ogaadeen maaha anigu ogaadeenna ma ihi dirna ma ihi laakiin waan kala aqaanaa aad iyo aad midda kale iyagoo kaliya ma degana dhulbahantaa degan oo isaaq baa degan oo majeerteen dad badan baa meeshaa dega waayahay horta may fahanteen aad iyo aad waa ku fahmay haye ها marka midda kale waxaan ku sheegayaa haye horta qofkii wacan baan la jeclahay ama dir ha ahaado ama ogaadeen ha ahaado inuu hogaamiyo laakiin waxaan ku sheegayaa waxaad ku celcelisay boqolkiiba 80 waa nagil booliska qaybta dambe waan u soo noqonaynaa dhulka iyo faahfaahinta dambe waan u soo noqonaynaa waan la socdaa qabaa'ilo kala duwan ayaa degan dhulka deegaanka Soomaalida Ethiopia balse waxaan u joosgareeyay beesha dir waxay tahay Axmed Shide oo wasiir golaha ka tirsan baa la yiri maamulka ilaa laga helayo madaxweyne loo dhan yahay isaga ayaa amarka laga qaadanaya Axmed dartii baan dirta u keenay marka bal labada qaybood halganka adigoo eegaya new police way noo dambeyn doonaan iyo faahfaahintooda yaa labada beelood aad isleedahay ummad ayaa la samata bixinaya qabiil lama dooranayo maaha in qabiil kale uu ka wanaagsan yahay qabaa'ilada Soomaaliyeed waa dad wada siman iyaga faahfaahintooda ma galayo waxaan rabaa hogaanka iyo samata bixinta ummadda dhulka deegaanka Soomaalida Ethiopia waqtigan siyaasiga hogaaminaya ma isleedahay dir buu ka soo jeedi karaa oo alla ilaahay dir hal la siiyo miyaad adigu aaminsan tahay adigoo dadka u daneynaya iyo miyaad aaminsan tahay sidoo kale inuu ogaadeen u dhasho adigoo ummadda u daneynaya bal labada mid kamid ah codka si Cabdullaahi Balwaan markaan runta ku sheego Soomaalidu meel dheer kama fakartay wallahi waxaan islaahay nin ogaadeen nin ahay inuu hogaaminayo waa gartay haye because de magaalooyinka dhan bay leeyihiin ba hogaamiye kan magaalooyinka hogaaminaya meel yar dhulka ka degay haye ها دول بحنتا وحكا هاي نساقبا وحكا هاي دربا وحكا هاي وقاعدين بقى قمنا لنا هبر يغلي إلا قفوا إنه مال في عنو دير كيف فكرات في عن وقتها هاي دين مركا واسا لكن هدي حق للدولة يو حق جيرو دين من كستادير وقاعدين بقى هقامين كرا لكن محيبه هقاميان وحبا ماشا كمال هاي waayahay marka adigu waxaad aaminsan tahay dhulka in looga badan yahay sida awgeedna ay xaq u lahayn bal ummadda u tilmaam qaabka dhulka loo kala degan yahay waliba gaar ahaan dir iyo ogaadeen iyo sida waqtigan aad isleedahay alla ilahe ogaadeen looma dhaafi karo hogaanka u sharax dadka ku dhageysanaya oo ay suurtagal tahay inay dir ku dhageysanayso oo ay macquul tahay dad ogaadeen inay ku dhageysanayaan waxaan ka rabaa marka bal ummadiina la wadaag aragtidaada guud adigoo ii iftiiminaya dhulka ay ogaadeen ku degan yahay anigu shaqo kuma lihi labadoodaba waan u dhaxeeyaa fikradeyda kuma darsanayo ummadda iyo waxay ka yiraahdaan baan diwaan gelinayaa marka dhulka dir halkee buu ka degan yahay ogaadeen halkee bay ka degan yihiin hogaanka waqtigan iyo jacaylka bulshada iyo sida ay bulshada wax u rabaan maanta markii la yiraahdo cod ha loo qaado bal intaa u iftiimi dadka waa u iftiiminayaa haye dhagax buur oo bayin oo nus degaan waa kow dadka majority iyagaa dega waxay degaan goday haye waxay degaan iyada oo dhan aad ogaadeen u maqashay aad ogaadeen iyo u maqashaa dir iyo imika ogaadeen ku sheegay majority ogaadeen baale magaalooyinka dhan ee xukunka ku wanaagsan oo dhan ogaadeen baale marka ogaadeen hadduu magaaladii iyo magaalooyinkiiba leeyahay ninkan mageel uu xukumaya haddaan ogaadeen raacsiisana inuu soo dooran oo walaalnimo la isku dooran waa ku gartay marka aad labadaas fikradood aad dhiibanayso dadkana dhageysanayo waxay isweydiinayaan bal inaad labadaas beelood u dhalatay iyo inaad Soomaalida kale ka soo jeedo oo cadeeyo bulshada wallahi billahi inaan midna u dhalan anigu Soomaaliya oo qof jecel baan ahay Soomaalidu meel dheer kama fikirto waxay ka fikirtaa bal nin wariya hadarta ku dhaadlay wuxuu ku meeraysanaya waa maqlay waxaan ku darsanaya Cabdullaahi Balwaan oo mid kale aan ku daraya haye
soomaalida wax badan baa iskaga qaldan soomaalidu waa inay si fiican u fikirto meel dheer ka fikirtay ay ku meeraysan adduunkan casri waxa weeye nin waliba waxa marada kugu jirta hadda imika dadka qaarkii damaaciya maradan adiga aad xiran tahay iska badaa bad iyo guryo iyo waxaasi iyo magaalooyin dhisane waxa weeye oromo ma aha bir waa kow dad badan oo aan badir ahayna waa lagu sheegay hadda isaaq waa rag caraba waa carab asala waxa la odhanayaa waa dadka horta haybihiisa barta waayahay marka adigu qarnigan 2018 waxaad tiri ogaadeen ha loo dhiibo waxaa jirta marka arrin aan anagu xaqiijin karaynin laakiin siyaasiyiinta iyo dad ku dhadhowna ay noo sheegayaan in cadaaladi aysan ka jirin dhisnaanta ciidanka new booliska oo na lagu yiri inkastoo aynu cadday karin in ay 90% hal dhinac ka soo jeedaan oo 10% ay soomaalida kale yihiin marka ciidamo 90% hal garab ah ma isleedahay dhul bay hoggaan ciidan ka noqon karaan hayo way ka noqon karaanoo haddayba cid kaloo la halgamaynin ba ayna arkinba oo aan dadka kaleba damiir lahayn oo oramadii loo naagaynayo oo xabashidii loo naagaynayo dee meeshiina iyagaa u badan oo xitaa haddayba daacadi xitaa jirto 80% way yeelan karaan because iyagaaba meesha iskale oo ku badan marka maxaan waa sidaas walaalayay dadkani ku jaahwareena oo ku waalin dadkuna cadaalad uma hadlo cadaaladi hadday jirto reer laba qof oo keli ah baa labaad waa di cadaaladi jirto laakiin hadda cadaaladi ma jirto waxaa raggaa meesha abaabulay dadkii sidaa u dhisayna waa taa lagu macaarado la kala tuuray nin oromo oo hadeerto oromadooda u feestaynayana ninuu keensado ka amar qaato unbaa la rabaa waa ku gartay aad baan kuu fahmay marka ciidamo ayaa isweer ka qabtay dhulka deegaanka Soomaalida Ethiopia waagii la doonayay in gacanta lagu dhigo Cabdi Maxamuud Cumar ciidamadaasi adigu ma waxaad aaminsan tahay inay yihiin Oromo mise waxaad aaminsan tahay ciidamo federal ah oo Ethiopian oo military inay ahaayeen waxaan aaminsanahay ninka Oranka maxay hayday annaga hadda Oromada dad kaftabaanu nahay waxay dhulka Soomaalida oo dhan bay soo mahmaadaan dhulka annaga waa dad aad u cirq xun ninkaasi inuu amar soo siiyay oo ninkaas uu ku socdo maxay ahayday magaca Oromada lagu socdo anigu waa taasana aaminsanay waayahay bal uga jawaab dadka ku dhageysanaya su'aashaasi aniga ma qabo dadka ku dhageysanaya qaarkood waxay isweydiinayaan haddii madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu baydhabo weeraro oo militariga Soomaaliya u diro Shariif Xasan Sheekh Aadan ma la dhihi karaa Mareexaan baa weeraray baydhabo maya soomaalida iyadoo qabiil isu dishay alla ya xafadad waad aragtay muqdisho waa lagu wada nool yahay soomaaliduna dad meel dheer ka fakarana maaha uurxumadoodana hadda haddaynu labadeenu ismaaqno hooyo imaadan fahmin horta marka hore aad ii dhegeyso su-aasha sidaan ula wado ifahan waxaan ku yidhi aad ii dhegeyso laguma maqlayo ilaa aan su-aasha ka dhammaynayo ifahan waxaan ku yidhi haddii tusaalaan kuu soo qaatay haddii mudane maxamed cabdilaahi farmaajo madaxweynaha Soomaaliya oo baydhabo militariga Soomaaliya u diro beesha raxaweyn ma waxay dhahayaan Mareexaan baa na soo weeraray de haddaba haddii bika farmaajo uu meel tago intaaba sawta laleeyahay alla Mareexaan baa noo yimi alla Mareexaan baa taladii haya alla kuwii bay nagu intaaba waa laleeyahay marka waa ku fahmay marka aan isbarbardhig u samayno wixii la dhihi jiray meel iidhig anigii adigaan rabaa in ummadiina naga faa'iidaystaan isbarbardhig baan u samaynaynaa waxaad tiri cidda weerartay jigjiga waa Oromo anna waxaan ku yidhi tusaale haddii uu farmaajo baydhabo military u diro Mareexaana u diray ma la oran karaa marka adna waxaad tiri Soomaalidu sidaas bay leeyihiin marka ma u qaadan karnaa dhulka deegaanka ee hadda la yiri Oromo weerartay inay Soomaalidu wadato hase yeeshee militarigu uu yahay mid isku dhafa maya anaa kuu sheegaya habar yar waxa weeye reerkan Oromada yidhaaha maad la kabsato ma taqaanid waa reer uurmariida Soomaalida laf iyo laf bay u neceliin Soomaaliduna waa la arkaa dad meel dheer ka fakara maaha waa dad iyagu isku meeraysta kooda wariyihii wuxuu ku macaaradayaa Soomaaliga kooda waxgaradkii waxgarad basaasaba ma lihin nin lagu wada macaarada mooyaane marka anigu waxaan aaminsanahay ninka abi inuu Oromada iyo nimankaas way islaayaan bilcaani bilkiyaare hadduu uu wax bedelayo yaa Cabdi Cumar iska tag booran lahaa laakiin wuu dadkii buu xasuuqay aad iyo aad ayay u mahadsan tahay aragtideeda quruxda badan waxaan leeyahay waa mahadsan tahay qofkii labaad oo
u codeeyey yiri ogaadeen mooyaane cid kale dhulka ma samata bixi karto ayay ahayd fadlan sababta aynu tusaalooyinka usoo qaadanayno ha u qaadan inaynu kala jeegno waxaad adigu aaminsan tahay ama aad isleedahay fahan isbeddelka dalka ka jira ayay federaalkaasi ka mid yihiin dhulka deegaanka su'aalo badan baa ka taagan adigoo ka cabir qaadanaya isbeddelada dalka ka dhacay waad ogeedeenoo Tigray baa wadanka hogaaminaysay isbedel baa yimid mudaharaadyo ayaa la soo maray halgan baa la soo maray ma isleedahay waqtigan hogaanka shacabka dhulka deegaanka Ethiopia waa in fursad laga siiyaa qabaa'ilada kale ee halkaasi ku nool waliba aan soo qaato Axmed Shide Aawadi baan dir u soo bandhigaya dir hogaankeeda waqtigan ma ka samata bixi kara dhulkaasi dhibaatada ka jirta mise halgamayaasha waan qiraynaa warbaahinta waynu ognahay ogaadeen inay yihiin dad halgamayaala waxaa ku jira jabhado aniga qiimo weyn igugu fadhiya oo aan support garaysanahay aniga oo aan aaminsanahay inay xaq u dirir yihiin sida ONLF oo kale qadiyadooda dadka aaminsan ayay warbaahintan koonfur Afrika ka mid tahay ONLF baa ogaadeynaya hogaaminaya halgamaagii ogeyd oo Soomaaliya oo dhan ka oysiiyay ogaadeen buu u dhashay taariikhiyan ogaadeen lama soo koobi karo ilaa bilow ilaa 2018 haddaan ku keeno anigu un baan daalaya waan ogahay halgamayaasha waqtigan muuqda iyo hogaankuba inay ogaadeen yihiin laakiin aniga fikradeyda maaha anigu shaqo kuma lihi fikradeedu kuma darsanayo ummadda ayaan rabaa in codkooda ay ku darsadaan oo aan aniguna su'aalo ka weydiiyo garo wariyaha iyo barnaamijka farqiga u dhaxeeya garo wariyaha iyo barnaamijka farqiga u dhaxeeya baro wariyaha hadlaya iyo barnaamijka farqiga u dhaxeeya mahadsanid qadka xiga iyo dhageystaha ku jira assalaamu calaykum habeen wanaagsan assalaamu calaykum وعليكم السلام سو دhow walaal aragtidaada ku biiri hogaanka iyo samata bixinta dawladda deegaanka Soomaalida Ethiopia dir iyo ogaadeen waqtiga ayaa samata bixi kara waxa samata bixin kara walaal dir bal aragtidaada ku biiri marka sababta ummadda u faafaahay dir waxa ku samata bixin kara walaal ogaadeen qabyaaladii wax ku doonayaan iyo maxay ahayd daarood iyo balaayo iyo waxan garas meesha oo lin laakiin ninka yar dhalinyarada hadda soo baxay ee dirta ah waxaan aaminsanahay inuu dadka cadaalad ugu shaqayn doono waayahay aanu marka u laabano shacabka baahidooda iyo taageerida gudaha deegaanka maxay dirtu ka qaban karaan baad isleedahay adigoo eegaya dhibaatooyinka badan iyo horumarka ka jira dhulkaasi oo haddaba diyaaraduhu ay bilowdeen jigjiga ay hadda nabad tahay diyaaradihii oo dhan ay bilowdeen adeegii bulshada way bilowdeen haddii hogaamiye dira uu yimaado muxuu qaban karaa hadduu yimaado hogaamiye dira wuxuu qaban karaa waa nin nolosha wax ka fahmaya waa qof soo maray gumaysi وأنا في صوت بقرر كان تسجيل ولا بعضي أنا على مثلا هديك طماط ومدح نقدر إن الأولاد بقى عفقري متقارنة يوم قارن سوي حساب اللي بسنيه وقع إحنا مثلا نقص وطبعين قرأ ماشى waayahay dadka adiga aan kugu fikradda ahayn waxay leeyihiin dirtu halgankii la soo maray qayb ma aysan ka qaadan haddaad shalay ku fiirsateen ogaadeen oo aad arkayseen ogaadeen la xasuuqayo oo dalkii u dhimanaya goormaad ogaateen inaad dhulka leedihiin ولا ما حابب ولا لا عاوية وقال الناس يسوي سيسيين بس كانوا وابدين بدل هروب يستوون مدرسة مستحضر قاعدين ويدهم الناس أنا كابس كله مركها محل لا تقع على بعض يبغى بدل الناس يسيين وروح قاتلين من الصومالي وبعدين يبقى المسؤول كي مدرسة مدرسة كل خدمات كل شيء أنا يقول عندي كل شيء أنت كل شيء هذا الصومالي بدك waayahay marka ma ku qanacsan tahay habka ciidamada new police ay u dhisay yihiin ما كو قنعسنين توصل waxa weeyaan waa khalad sababta waa qabiil kaliya ta ima qayb waxa ku aayaan dadka qaar dawladda ma garanaysaa ka dhisan geeska Afrika oo la isla wada garanayo waa dad yani qabiila iyo kuma qabiilahan marka ogaadeen oo ona laf ogaadeen laga wada dhigayo waayahay anagu jabhadda su'aalka ma weydiin waxaan ka weydiiyo new police aan ka weydiin new police ku qanacsan tahay ما يكون مقنع سنة وابا كوا في النذا كوبات إيه صومالي لكا كلا جيي إيه ضد قناضي عروب لاي إيه إسلام لاي إيه دمر لاي إيه رجل لاي هو ما مقنع سنة ولا لا صومالي ما بيكون دولي لا حضر طب ويتجنال أنا الجلي صومالي لا يجاو مامولي والله إلهي بدأ فيه والله صومالي أي كلام ما بعينه ويا أبيض عقل ملا والله waayahay adigoo dir ah oo caawa hogaankii dirkana u doortay waxaan rabaa inaan ku weydiiyo jigjiga ciidamo military ayaa weeraray militarigaasi micno kala duwan baa loo sameeyay waxa la yiri Oroma Soomaaliga duulaan ku ah warbaahintu se fikrad kuma darsanayso adigu yaa jigjiga weeraray ma Oroma weeratay mise militariga Ethiopia oo dhameystiran
militariga Ethiopia oo dhamaystiran baa weerar sidee maxay Ethiopia oo wada weyn waxay mareynaysaa Soomaalidan qabiil fadhida cid aan ku jirin ma laha walaalo wayahay waa maasantahay sida quruxda badan aad fakarkaaga uga qayb qaadatay qof waliba oo na dhageysanayana wuxuu xaq u leeyahay aragtidiisuna ku biiriyo barnaamijka qof kasta ayaa xora aragtiduna waa mid aad u dheer salaamu calaykum habeen wanaagsan وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. soo dhawow aragtidaada adigoo mahadsan bal fikirkaaga ku darso waqtigan marxaladda dalka uu marayo dhulka deegaankan kala jeeda waqtigan iyo hoggaanka dalka oo la leeyahay waa in cadaaladda ay timaada waa in isbeddelka ka dhacay Ethiopia oo dhan uu saameyn ku yeesha dhulka deegaanka Soomaalida Ethiopia anigoo Axmed Shide ka tusaale qaadanaya waxaan keenay beesha direed oo waqtigan la yiri ilaa madaxweyne laga helay xitaa halaga amar qaato wasiirkaasi u dhashay beesha ma aaminsan tahay waqtigan in samata bixinta labadaasi qabiil markaad soo dhinac dhigto alla ilaahay aad dhigi karto hoggaanka dalka iyo samata bixinta ummadda dhulka deegaanka Soomaalida Ethiopia alla ilaahay waa inuu dir noqdaa ama waa inuu ogaadeen noqdaa adigoo waliba qiimeynaya barnaamijka soo dhaw aad iyo aad baan idin salaamayaa adiga iyo asxaabta ku dhageysanaysaba waan isdhihi karaa waxaan isdhihi karaa laba qodob markaan soo qaato reerka ku habboon maanta inay hogaamiyaan oo islee waa samata bixin karaa horta waa laba reer oo Soomaaliya oo dhammaan meesha waa degantaa cid kastaan waa hogaamin kartaa laakiin waxaa samata bixin kara maanta reera aan waayeenahayn dir waa samata bixin karaan hawiyaa samata bixin karaa jid waa qololashaa samata bixin karaa laakiin reerka ku habboon maanta inay hogaamiyaan especially nin uga habboon ma jira Axmed Shide markaan soo qaato tusaale ahaan labada qodob ku soomeynaya waxay tahay wadankii Soomaaliya loo jiray faruu ka baxay Soomaali galbeed intiisii badnay reerkaasaana gacanta ka saaray oo California iyo waxay sameeyeen tan labaad Axmed Shide 500 iyo intaas konton miya dhalinyaro oo jaamacadaha ka baxay oo killinka loo diray uu ka mid ah America wax soo dhaqay inta dhaqaale ku soo takhasustay 550 isaga ka soo laabtay wadankii banaadii inta laamiga wasiirka hawlaha guud iyo waxa ay gaadiidka inta laamiga wajaale ninka geeyay waa isaga jarati ninka geeyay waa isaga wadanka ninka dhisay waa isaga wasiirkii maaliyadda oo hore oo killigu ah mid kalena waa ku soomeeyay waxa moodaa dadkii hadlayay dadka la sheegayo maba aqaane horta inaan u xisaabiyo magaca darooda dhammaan sababtoo wuxuu caadifad laga noqon ma laakiin waa laga dhigay dhulkani waa laga eeriyo waa saddex waan u kala dhigaya qayb waxaa leeyahay hawd and reserve area qaybna waa qaybtii loo bixiyey ogaadeen qaybta loo bixiyey hawd and reserve area horta wax aan isaaq iyo gudabiirsay ahayd ma degana waa gartay samaroon iyo waxaa degan isaaq labaduna waa dir waa gartay ka soo tag ciisa dega oo ilaa iyo Jabuuti saysa ilaa dir oo caasimadoodu tahay gurguraa dega waa dir ciise waa dir akisha waa dir Charles oo magaalada Jigjiga akisha iyo Charles iska lahayd laga saaray oo duhur cad lagu bahdilo guryahoodii la dhaco maatadoodii la laayay oo lagu kalifay inay California galaan waa reerka ugu tira badan meesha waana dir guraa degan gariiraa degan obaa degan qoraayoobaa degan haddaanay dadku ay ku kooban yihiin qabri dahre iyo dhagaxbuur iyo intaan soke dhulkii laga dhigay oo meesha tag markaa ilaa iyo maa'isa dadka jooga waa Soomaali runta markii loo hadlayo waa hawiye iyo dir odaygii hawiyaha 5 buu dhalay markii laga reebo ninka la yiraahdo Gorgaarti iyo Gugundhabe oo qayb ka mid ah degto Soomaaliya iyo Karanle oo murugsada ka dhigo intoodii kale markii xasku noqoto markii sicis haween noqoto markii Karanle haween noqoto meeshii degan teer iyo ma isay degan dhulkan waa inta kuwaas uu ormo uu telefoon waa ku xasbeen laakiin inta la gaarin konton iyo 7 degmo dhulka Soomaalida ahayd nimankan 8 madaxweyne ay soo mareen konton iyo 8 degmo ilaa mooyaale ka diro ilaa cirifka ummadii iyaga baabashay oo ku kalifay inay galaan ormo u galaan California dadkii ay ku rideen inay halka u galaan iyaga baday mid kale oo ku sheegaya ormadan ay leeyihiin waa soo weerartay waxa weeye ninka la yiraahdo maamulkan meesha joogay Soomaaliya inta ay killinka xuduud la leedahay Soomaaliya caadiga ah reer dega oo Soomaaliya oo soo xasuuqin malakishkaash ka dhigay ilaa 1700 kilomitir ormo dhankeeda laga leeyahay meel reer daawada xuduud kale leeyahay ma jirto sidoo kale dadka kishkaash uga dhigay wuxuu ku kalifay waa gartay ay ka qaxay isaga qaxaya oo mooga
waayahay waxaan rabaa marka inaan su-aal kaa weydiiyo dhowaanahan military baa weeraray dhulka deegaanka soomaalida etoobiya qaar ka mida siyaasiyiinta waxay ku micneeyeen oromo inay weerartay dhulkaasi yaad aaminsan tahay dhulkaa wuu weeraray ma militariga federaalka oo dhammaystiran miyaad aaminsan tahay mise inay oromo ku duushay dhulka waa jigjiga miya walaala jigjiga waxa weeye nimankaani way shireen markay shireenna waxay yidhahdeen tigreeda wax isku ogaayeen aan goyno waddanka oo soomaaliya ku dabo dowladdu way ka warheshay subaxii ciidan garab casriye layaa jigjiga joogaa soo aaday madaxtooyadii markay yidhahdeen kabinetkii baa shir jira ay qabtay waxay yidhahdeen waa naa soo weeraray waa nagu soo tegey dadkii bay geliyeen kiciyeen dadkii waxay ku yaaceen ummaddii aan iyaga ahayn hadday isaaq tahay hadday jaarso tahay hadday oromo tahay bangigii baa la dhacay dadkii baa la boobay goobihii diintaa la gubay ciidankii way ka baxeen dhulkii markii la boobay odayaashii iyo cuqaashii ku shiray meesha la yidhaha dirlada ayaa dalbaday ciidankuna waa ciidankii federaalka oo militariga ah oo yimid soomaalinimo hadday rabaan calanka buluugga intuu kaga jiray iyagaa ka saaray nimankan hadda ka hadlaysaa waa kuwa hasha ku sawirtay maanta inay calan la soo baxaan soomaali oo dhan bay ka saareen calankoodii shalay hadal buu ku sawirtay wuxuu igu yidhi tigraa baan ahay mila zanaawi baa la dhashay waxaana anugu dee magi qaba inaan halkaa gaaro laakiin soomaalinimada maanta loo ordayo shalay markii dadka saa loo bahdilayay oo waxaa la samaynayay xaggee jirta soomaalinimada mid kalena waa ku sheegaya xolo ummad baa degta meesha marka haddana waxaan maqlayay mille 2 gobol baa degaa marka gaadeen laga reebo anaa ugu dhul badan war waxaan ku yidhi 9kii Soomaali dhalad oday ka maqan ma jiro hadday dagooli tahay hadday gaaljacal tahay hadday xawaadlo tahay haween iska daa 13 xildhibaan bay ku lahaayeen meesha ummadkii meesha anigu odaygii haween ay diraa labadu waxay ku aasayeen dir dhaw dushiisa absame oo ku aasan qardo meesha anigu aan ka uskubo oo kuma haygu yaaliyeen nimankani hadday rabaan 3 bilood oo lagu jira emergency ninkaas ahaynaya meesha madaxweynaha la diyaarinaya cod baa la tegaysaa meeshaan faradi ha ku yimaadeen cod ha ku qaateen waa reer Soomaaliya maalintii cod ku qaata ama daarood baa isku dhig maalintii cod ku qaataan cid kula hadlaysa iyo cid ku haysataa ma jirto wax yar waa maasan tahay waxay su-aasheedu kala tahay dhulka waxaa ka howlgala ciidan la yidhahdo new police oo runtii la yiri sida warbaahintuna kama warhayso laakiin waxa ay dadku deegaanka leeyihiin ummadda dhulkaasi degan maxay kula tahay aniga wax ila tahay ama hawl dhamaan ama yuu dhamaan systemka iyo ciidanka soo baxaya ama military lagu daro ama hala baabiyo taa dowladda lafteeda laakiin sidii hore anigu ma qabo inay ku joogaan waayahay aad baad u mahadsan tahay sida quruxda badan oo aad fakarka noola wadaagtay waa mahadsan tahay qof kasta aragtidiisa xaqa ayuu leeyahay inuu nala wadaago isaga oo cabiraya siday la tahay isaga asalaamu calaykum wacalaykum salaam walaal soo dhawow aragtidaada adigoo mahadsan ku darso fakarkaaga dhulka deegaankaasi waqtigan isbedelo baa dhacay labada beelood ee miiska ii saaran ayaan rabaa bal in aad tiraahdo alla ilahe ummadda ileen hogaamiye kastoo madaxweynaha qabiil oo u dhalana hogaamiye dhulka dhasha ma jiro hogaamiye geed dhexdiis ka dhasha ma jiro hogaamiye cirka ka soo dhacay ma jiro hogaamiye dhulka ka baxay ma jiro nin waliba markii uu dalka hogaaminayo qabiil buu u dhalanaya hala yaabin marka qabiilka shalayna hoggaan baa jiray maantana hoggaan baa jira dhulkana waxa ay xildhibaanada iyo wasiiraduba aaminsan yihiin inay Ethiopian yihiin marka waxa qasaba Ethiopia wixii ka dhaco inuu saameyn ku yeesho ma xuma bal aan weydiiyo dhageystaha beelaha dir iyo ogaadeen ummadda dhulkaasi degan yaad isleedahay oo codkaaga siinaysaa oo dhigi karta alla ilaah ummadan iyaga badbaadi kara dir iyo ogaadeen horta walaal ummadda horta waxba ka qaldan ma ogtahay haye hadda ninkii ga horreeyay horta intaadan qof kale ka hadlin waad ka hadli doontaaye kaamana diidaye bal horta codka aan kaa diiwaan geliyo horta tayada kasoo jawaab kadib baad waxaad raacsan doontaa beesha walaal xaqa u leh inay hogaamiso gobolka weligeedna hogaamin doonta waa beesha ogaadeen bal taa u sababee dadka u faahfaahay sababta aad u tiri sababta haddaan kuu sheego heede waa ku maqlayaa kililkan shanaad lagu sheegay 9 gobol buu ka kooban yahay haye ogaadeen ku 6 gobol ee ugu waaweyn bay si khaas ah u degaan waa gartay gobolka Jijjiga ku soo haray gobolka Jijjigana Soomaalida inta degan oo dhan iyaga kaga badan waa gartay مثلا aad haye gobolka Shiniile kaliya oo ciise dega ayay diri si hadii dir la diro dhab hadii la wado si khaas u degtaa
waa gartay iyo dhowr tuulo macnaha jigdig dhowr tuulo jijiga hoos taga dhowr tuulo jijiga hoos taga ayay degaan waa gartay marka dee dadka xaqa u leh inay maamulayaan way iska cadday walaal ummadda waxbaa ka qaldan moogta waa yahay waxaan rabaa in su-aashayda labaad ay noqoto waqtigan waxaad tiri ogaadeen unbaa samata bixi kara ciidamo militariya oo ethoobiyaana ayaa dhulka gaar ahaan jigjiga weeraray isweer ka qabtay laba magac ayaa naloo sheegay mar warbaahintu waxay arkaysay in ciidamadu ay yihiin military qaar ka mid a siyaasiyiinta dhulkaa deganna waxay yidhahdeen oromaana soo weerartay yaad aaminsan tahay military ahaan militarigii jigjiga weeraray inay oromo yihiin inay federaal yihiinba walaal dalka Ethiopia hadda waxaa maamulo Oromia maamusho Oromaa maamusho macnaha haye militarigan Oromaa wadata walaal militariga Oromaa soo amartay militariga kan ugu hooseeya kan ugu sareeya waa Oromo amarka abiibe ku socdaan waa Oromo waa yahay bal haddaan soomaali ahaan tusaale ku siiyo haddii madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo jowhar oo weeraro dadka degan jowhar ma waxay dhahayaan mareexaan baana weeraray mar dee ma aha taas maba dhacayso oo militariga xamar fadhiyaa ma aha mareexaan haddaba waa yahaye madaxweynuhu hadduu mareexaan yahay militarigana mareexaan may noqonayaan abi hadduu yahay oromo militarigii Ethiopia ma oromo noqonaa marka bal taas dadka iswaafajiba dee walaal way iska caddahay walaal qaali cabdullaahi waad iska ogtahay in maalintii ninkani meesha yimid taliyihii ugu sarreeyay Tigreega meesha ka saaray uu mid oromo saaray ninka amarka bixiya ninka noqon hayo isna uu ninkaasi amriyo marka way iska caddahay walaal sida Soomaaliya tan Ethiopia isku mid ma aha Ethiopia kolba qowmiyad baa timaada yaa xilka la wareegta qowmiyadan waliba qowmiyadii Tigray iyo Xabashidu way ka duwan tahay oo si cad meen ugu soo duuli jireen qowmiyada marka xilka qabsata qowmiyad kale oo kililada kamid ah way ku duuli jireen laakiin tani weerar cad bay ku soo qaaday Soomaalida waxaad aaminsan tahay amar oromo inay militariga u socdaan laakiin ma aaminsanid dadka meesha yimid inay u dhasheen oromo waxaan aaminsanahay inay oromo dhulka Soomaaliya horta wax badan baa iyaa ka qarsoon oo anagu ognahay su-aasha waxaan rabaa inaad igaga jawaabto bal aad ii dhegeyso waxaan ka wadaa dadka yimid ee tuutaha watay ma dhalasho ahaan bay oromo ahaayeen mise militarigii federaalka oo amar oromaa wato ayaad aaminsan tahay waxaan wataa hadda militarigu cidoon haday doonto haba ku jirto haday doonto Soomaaliya ku jiro balse laakiin amar oromo ku socdaa militarigu amar oromo ayuu meesha ku yimid waxaad ku caddayn kartaa taa bal adigoo shacaba sababta aad u leedahay military dhan oo dowlad maamula oo dowlad ka tirsan dowladdu ay tahay dowlad geeska Afrika ka dhisan oo qabaa'ilo kala duwan ama qowmiyado kala duwan sideed u leedahay amar oromaa bay ku socdaan amar oromo waxay ku socoto waxaan kugu caddaynay maalintii ay weerarka soo qaadeen ciidamada wixii qowmiyadaha kala dhaxday kaga hadheen Xabashida dhaxday kaga hadhay Tigreeyna dhaxdu kaga hadhay aadan ku fahmay marka waaya ciidamada new police ayaan rabaa inaan su'aal ka weydiiyo annagu ma xaqiijin karno mana ogaan karno laakiin dadka qaar waxay leeyihiin hal garab kaliya ayay u badan yihiin maxay kula tahay garabka ciidamada taas waxba ma ka sheegi karo way dhici kartaa inay reer u badan yihiin ciidamadu taas waa iska caadi way reer u badan yihiin waayahay marka fikradaadii waxaad tiri codka ogaadeen baan siiyey marka dadka ku dhagaysanaya ma Soomaali kale aad ka soo jeedaa mase labada beelood aan caawa ka hadlayo midkood baad u dhalatay adiga leeyahay labada beelood midkood baan u dhashay alashaan waxaan u fahmay inaad tahay wiil ogaadeena anu waxayga ma qarsanayo Soomaalida waan u sheegayaa reer baa maamulaya gobolka weligii intuu ay ummadan dunida ku nooshahay reer baa maamulaya al-isdaalin aad baad u mahadsan tahay sida wacan ee quruxda badan aad fakarka noola wadaagto qof kasta oo na dhageysanaya waa xor aragtida qofka dhageystahana lama dafari karayo qof kasta xora aragtidaada ayaad dhiiban doontaa rabbi hadduu ilmo dhageysta kasta aragtidiisa ayaanu la wadaagaynaa qof kasta oo na dhageysanayana wuxuu xor u yahay barnaamijkan uu la soo xiriiro fakarkiisana uu ku darsado isbedelada ka dhacay Ethiopia ayay saameynta qayb ka mid ah noqotay maxaa yeelay federaalku tusaalan ku siinaya dhulka aad u dhalatay Soomaaliya la yiraahdaa waa federalism galmudug Soomaaliya ka tirsan tahay hirshabeelle Soomaaliya ka tirsan tahay haddii marka dowladii Soomaaliya isbedel ku yimaado oo isbedelkaasi uu noqdo nin cusub u yimaado jawharay saameynay baydhabo ay saameynaysaa hargeysa ay saameynaysaa boosas ay saameynaysaa sidaa darteed saameynta isbedelka ayaa ku yimid dhulka marka laga reebo
arrinta shidaalka oo aan muddo sidaas u fog ayna jirin laakiin soo ifbaxday waxaan rabaa marka ummaddu inay aragtidooda ku darsato la xisaabtanku waa muhiim fahamkuna waa shay aad u qaali ah hogaamiyuhuna dhulka kama dhasho Soomaaliya horta ka yaabin markaan leeyahay hogaamiyuhu yaa jeclaan lahayd inuu u dhasho macnaha kala ma jeedo inaan qabiil ku kala saarayo labada qabiil iyo Soomaalidu dhanba oo ismeeyay laakiin hogaamiyaha cirka ma ka soo dhaca isweydii madaxweynuhu ma cirka ka soo dhaca ma dhulku ka soo baxa ma geed talaalba ma geed la beerayba ma qabiil uu ka dhashay marka hogaanka iyo saameynta bulshada iyo dhulka ayaan isku miisaameynaa sida darteed nin baa la yiri Axmed Shide la yiraahdo ha laga amar qaato ilaa doorashadu ay ka imaanayso ama dhulka loogu helayo hogaamiye ninka waa nin dira waxaan rabaa marka ummaddu inay taagarato sababta aan dir iyo ogaadeen halka u keenay marka ogow barnaamijka iyo wariyuhu waa labo aan ku celiyo adiga ay fahmi kara haddaad wax garad tahay wariyaha iyo barnaamijku waa labo ha isku qaldin wariyuhu banaanku ka yahay barnaamijku wax buu xambaarsan yahay tusaale gaariyan wada waxa ii saaran rarka iyo darawalka ma isku nooca macnaha aniga dadka soo briisan wada anigu briisman ahay marka sokoran wada sokorman ahayn marka ogow marka gaariga rarka ii saaran iyo aniga labaan kala nahay darawalka iyo gaariga rarka saaran ha isku qaldin barnaamijka iyo wariyahana ha isku qaldin fadlan aragtidaada ka dhiibo barnaamijkaad leedahay halkaa ayaadna fikirkaada ku darsan doontaa asalaamu calaykum habeen wanaagsan halo salaamu calaykum habeen wanaagsan وعليكم السلام walaal codka ima anfacayo kor haddaad igu qaadi kartona aad aan u jeclaa lahaa bal soo dhawow mar kale ku soo dhawow barnaamijka habeen wanaagsan ها xogaa microphone kale afka ka durji caadi u hadal caadi ah tahay marka bal aragtidaada ku biir aragtidaada fadlan aragtidaada ku biir waa ku maqlaa walaal aragtidaada imika hadda ka dhigto hello dhegeystayaasi qadkaa ka go'ay waa ka xumahay waan jeclaa inuu qayb ka noqdo fikradda dhegeystayaasha nasiib daro asalaamu calaykum qadka xiga السلام عليكم وعليكم السلام walaal soo dhawow aragtidaada ku biiri hogaanka dhulka deegaanka Soomaalida Ethiopia waqtigan 2018 yaa samata bixi kara labada qabiil oo aan jeclaystay in hogaamiyayaashooda midkood uu ka soo baxo adigoo eegaya nidaamka isbedelka ka duulaamaya fakirka cusub iyo Ethiopia aragtida iyo isbedel doonka iyo waaga cusub ee bariyay bal soo dhawow ku darso aragtidaada ogaadeen iyo dir waqtigan yaa hogaanka ummadana samata bixi kara horta waa ku salaamay adiga iyo ka qaybgalayaashaba sidoo kale waxa weeye meesha la yidhaahdo Ethiopia dhulka horta qoomiyado kala duwana ku nool wadankana waxaa hadda loo yaqaanaa dhulka kirilka shanaad ee mataqaanaa Soomaalidu ku nooshahay waxaa qaladoni anigu qabaan u arkaa magaca la bixiyo la yidhaahdo ogaadeen eragaasaaba horta aniga bawarkaaba inuu yahay eray mataqaanaa qalad ummadda Soomaaliyeed looga gala wadanka wax ka degta haye meesha kulli jawaabta markii aan ka jawaabay eragaada waxaan rabaa hadalka sidii lagu weydiiyay inaad uga jawaabto eraga ah ku saabsan yaa samata bixi kara qofkii dawladda Ethiopia u aragtay inay mataqaanaa samata bixi karto uma samata bixi kara wadankuna waa wadan federaal inkastoo uu yahay haddana wixii qalada oo wadanka ka jira dawladda dhexe ayaa maamusha marka arrintan hadda dadku ay soo jeedinayaan oo ay leeyihiin mataqaan hal qabiila meesha iska leh hal qabiila maamuli kara fakirkaas anugu dadka qaba kamid maahi qof oo mataqaanaa waxaan kamid ahay dadka Ethiopia ku dhashay waa gartay waad ii wadi doontaa waana tusaaleyn doontaa rabbi adoo idme labada beelood waxay muhiim noogu noqotay ummadda inaan cod ka arurino marka bal codkaaga ku darso waan ogahay siyaasaddu waa geedka labadiisa har waxaa laga yaabaa inuu qof kale yimaado laakiin hadda waxaa la yidhi Axmed Shide oo u dhashay beesha dirir ayaa hadda hogaanka looga amar qaadan doonaa baa la yidhi kacdoon baa ka dhashay xisbigii talada dalka waxay yidhaahdeen waa cadaalad darro waa gumaysi in annaga nala soo farageliyo waxay diideen Addis Ababa looga yeeray waa tii arrintu ay aad u daba dheereed marka dir iyo ogaadeen markaad eegto 2018 ummadaasi ku nool kilinka shanaad yaa wax u qaban kara hadba ninkii loo arko maslaxaday u arkeen waxa weeye markii horeeto horta meesha waxaad moodaa hadba qoro markay qabsato in lagu mataqaanaa shaqaynayo mabdii markaas qolada meesha qabato oo maamulka federaalka qolada qabata aragtidooda in lagu shaqaynayaad moodaa had walba aragtidii timaada in lagula shaqaynayay u egtaa marka
haddii nimankii xisbigii hore oo mataqaanaa xisbi ahaan ciduna uma dooran nimanka iyaga inta is abaabulay oo niman tigree la yidhaaho aasteen ay meesha ku samaysteen xisbi dimuqraadiya soomaalidu inta xisbiya samaysatay xisbi ahaan tartan inta ku galay ku soo baxay ma ahayn waa dad oo mataqaanaa meles oo meesha ku sameeyey ayano garuuba loona isticmaalaya soomaalida inay dhibaateeyaan dhibaato soomaaliyeed ahaayeen nimankii meesha hore u joogi jiray ninkaanuna wuu samata bixi karaa isleeya marka dadku inay yidhahaan mataqaan ogaadeena meesha samata bixi kara iyo meelaha hoose wax laga fiirinayo inaan la fiirin rijinka sida loo degan yahay had walba qofka maslaxad loo arko mataqaanaa iyo siyaasadda dawladda dhexe in lagula shaqeeyaan anigu aan dadka qabaan ka mid ah mataqaanaa dadka aan la dulmin oo aan la dhihin mataqaanaa ogaadeen waxaan ahaynu mataqaanaa meesha minority ay ka yihiin mana shaqey karaan in la yidhaahdo eragaasu erag ummadda soomaaliyeed gefku ah waaye isballaarinta iyo mataqaanaa isla qabweyninka noocaasa iyo xaqiraadda ummadda lagu hayo ha laga dayo waxa weeye dadku xanuun badan ay tirsanayaan nimankii meeshaas joogay haddiiba inta ayaga iyo new booliskoodii iyo aan gebigood inta laysku keeno waree qolada xaquuqda human rights watch ayaa dhaweyto war adalkeeda warbixintay soo saartay new booliska dhibaatada ay geysanayaan ma la kala diraaliyo ummadda la leeyahay dhibaatay u geysteenna waa soomaali xilligaana waxay leeyihiin soomaaliyaa nahayo mataqaana soomaalinada naloo gumayna dulum naloo gagagelaya markhaatiyaad adiga laftirkaadan ku markhaati gashanaya iyo ummadda soomaaliyeed halkaas caawa gula jirta ummadka dhaqan xun adduunka dagaal kasta oo la soo maray ilaa kii koobaad oo adduunka iyo kii jahliga iyo kii la soo maray nimankaasu ummadda soomaaliyeed dhibaatada etoobiya dhib kuma geysan karaan iyo qole ay dhib u geysan karaan male laakiin ummadda soomaaliyeed oo kiilkaas ku nool dhibaataday u geysteen taariikhday gashay dad wiilal iyo naago iyo ilmo saqiira inta laayaan oo isku sawiraan inay cayaar iyo dhaanta ku kor tuntaan cabdi ilay iyo xisbiga hadda la sheegaayo oo meesha hore u joogi jiray unbaa mataqaanaa lagu arkay adduunkiya gaalada ka qaylida gaalada waa gartay aadan ku fahmay siyaasiyiin waxaa jiray markii hore cabdi maxamuud cumar iyo xisbiga mucaaradayay kadib markii arrintan timidna bedelay oo addis ababa ugu tegay waad igaga jawaabi doontaa taa laakiin waxaan ka hormarinayaa military baa weeraray jigjiga military ayaa jigjiga weeraray markuu jigjiga weeraray kadib waxaa la yidhi oromaa weerartay soomaali annagu taa fikradeedu ma lihin adaan ku weydiinayaa ciidanka weeraray jigjiga maxaad ka aaminsan tahay ciidanka weeraray inay tagaan xaqayba ahayd absolutely waa sax baa inayba tagaan because waddanka mas-uuliyada ka saaran waddanka meeshii ay u arkaan inay qalalaasa ka jirto inay tagaan weeye waxay u arkaan inay dhibaata ka jirto fili ciidanku maahan ciidan ka yimid mataqaanaa jabuuti iyo soomaaliya iyo mataqaanaa eritrea ka yimid maaha waa ciidan etoobiyaan waa qabiil hadda ninkii iga horreeyey erey oo isticmaalaa jiroo yidhi amxaare iyo mataqaanaa tigrey iyo meelay kusoo kala harareen ma dad waalanoo la hadlaa bal ilaahan kugu dhaarshee fiiri ma ciidan guutaa oo meel degan ama ururahoo meel degana la yidhi meeshaas howlgal u taga ama arrintaa kasoo fuliya qabiil usoo kala harhari kara bal ilaahan kugu dhaarshe waxa dadka la raba in laga dhaadhiciy ama loo sheego fiiri foolxumadeedu marka ciidankaanu waddanka etoobiya mas-uuliyadda ka hayaa meeshii lagu amro iyo howlgalkii loo dirana waa inuu qabta etoobiyan isla ognahay anigu waxaan joogi jiray xilligii dhargidii la sheegi jiray iyo kasii horaan ku noolaa waddankaas oon kala aqaanaa waxaa weeye dhaqan kasta oo waddankaas soo maray markii ugu dhaqanka xumaa nimankii waxay ahaayeen cabdiyada hogaaminaya oo waddankaas soo maray oo soomaali laayey oo ogaadeen laayey oo cidaysan u naxarisan aan la arag oo haddana iyadoo fiiri markhaati waxaad iiga tahay nimankii waddanka la deganaa jiray gebigood soomaaliya dadka qaxootiga ku ahwaay dadkii kililka shanaad deganaa oo soomaaliyeed waa dadka qaxootiga soomaaliya gudaheeda kuwa ugu badan barakaca laguu sheegaa waa dadkii etoobiya ay ka keeneen mataqaanaa etoobiyaan sooma barakicin ma dhibaatay waxaana u isticmaalayo oo mataqaanaa soomaalida inay baabiyaan tigreeya u isticmaalaysa xaduudihii inta yimaadeen uga daba yimaadeen xaduudihii soomaaliyeed waxaad ogtahay waxay isaaq ku laayeen waxay mariixaan laayeen waxay mataqaanaa hawiye laayeen habargidir laayeen waxay shiiqaan laayeen qolo walba xaduudihii inta uga daba yimaadeen markhaati waxay iga taha bay iyo bakool hadda ayaa dhawood inta ugu yimaadeen niman reexan weyn oo geel iyo ari iska ilaalshaa ay kunkunu qabanayaan markaas waxay leeyihin waa argagixis balaayeen argagixiday waas haddii ilaahay ummadda ka soo gaaray oo ilaahay abi waxaanoo arkaaba ilaahay dad oo u soo diraba ummaddaas inuu ku badbaadiyo ninkaan ow keenana waan ku taageeraynaa waana uu ku saxan yahay ilaahay baa ummadda ka qabta war aawo ummadda markay xaqiraayaan waxay leeyihiin gobolka ayagaa ku badan keligooda maamuli kara aawo ummaddii degi jirta waddanka waa lays yaqaana aawo ummaddii degi kir jirta ummaddii ku noolaa jirta waddanka aawo ummaddii hawiye aawo hadda fiiri hal qodob hal eray bisaan kuu soo qaadaa hal eray keliyaan kuu soo qaadanaya
laba erayaan rabaa inaan caawa kaa dhaadhiciyo waa erayga batroolka oo ayaana wad ay ka kaceen sababta batroolkaasna waxaan rabaa inaan wax yar kor istaago midda kale fiiri hadda nimankaan la yidhahdo kax shiiqaaleed meel la yidhahdo ma maqashay degme la siiya kax shiiqaalada muqdisho ku taal aad iyo aad waxay ka soo qaxeen dhagax buur iyo dhagax madow iyo nimankii degi jira waayo shiiqaal qudub la dhihi jiro halkaa ku noolaa jiri das ka soo qaxiyeen waa dadka mataqaanaa kax shiiqaaleed nimanka la baxay wey hal degmo oo dhan xamar ku taalay degan yihiin intaasoo milyan oo qoys waay oo waxay soo qaxiyay cabdiile iyo nimankaas meesha deganoo oo laleeyahay waddanka maamuli karaan wey nimankii goday iyo qalaafe iyo shuubo iyo mustaxiil iyo mataqaanaa haddii ilaahay kuu samogolyahay kililkaas deganaa waddankaas deganay oo hawiye oo habargidib waa ka soo qiyeen waa baabi'iyeen waxay ka soo dabagaleen xuduudii soomaaliya iska daa aawa mataqaanaa nimankii la dhihi jiray jidwaaq iyo jidle iyo haddii ilaahay ku qabiilo ayaga waxaba laga yaabaa ogaadeen inayba ku nool yihiin qaybo ka midu inay soomaaliya ku nool yihiin qabiilooyin waxaa jira aan kililka shanaad meelaan ahaynba laga helinaa jira asi waxay kuleeyihin keligana majority oo ogaadeenaa nala yidhaho dhulkaan anaga fiiri hadda haddaan ku idhaahdo reexa baraawe reer baraawe waa qabiil la yidhaha baraawe ma ayagaa leh waxaasu aqliga dadka in lagu wareeriyo maaha maxaa soo haray batroolka markaan kor istaago firi haddii inay batroolka in la soo bixiyo asaga iyo tigreeya heshiis ku wada galay marka uu arka meesha inuu ka baxaana batroolkanagii shanaa la yiriya shanana la siinaa la yiriya uu dadka kula soo dhex horda aan isbadbaadino isaa shan noo sheega aawo heshiis marka batrool la soo saaraa marka koowaada heshiis lagu soo saaraa aawo heshiiska u galay markii hore shanta waa wax ka ogaa marka uu arka nimanka kula heshiiyey inay meesha ka baxeen oo ninkaan u yimid qaylow bilaab ragaa badbaadi jira firi chinaiskii soo qodaayey nimankii hor taagnaa iyagoo meesha taagan dadkii chinaiska ku laayey oo meesha ugu tegey oo hor istaagay oo ma ahayn ogaadeen waa lays ogyaha soomaaliya waa ka warqabtaa niman waxay ahaayeen kalay ahaayeen oon ogaadeen shaqo ku ahayn chinaiska ku laynayey oo ka soo horjeeday in batroolka la soo saaro oo heshiis darro lagu soo saari baa hal qof ogaadeen uma uusan jirin macafta meelaha ka qaybqayla ka mid maahayn ma faham halka waxaan kuu sheegaa waxaan mabda'a la iska daadiciyey oo foolxumada oo ummadda lagu kala geynayo iyo xaq u suuqay geysteen haddii ogaadeen xaq iska baxa ummaddii ilaahay laayeen oo qabiil walba leh ha keeneen magtoodii iyo xaqoodii ha iska keeneen oo ummadda ilaahay cafis ha weydiisteen dulmi iyo gardarro lama rabo ummadda gardarray ku rogeen waa baabiye meel walba anaga majority kuway ku leeyihin kenya haddaad tagto soomaaliya haddaad tagto waa kas axmed madoobe takilkii sharatimid halkaas waxuu rabaa inuu labada meelba isku maamulo asaa hadda labadiiba meelba madaxweyne raba inuu ka noqdo meel walba majority ayagu waayahay waa maasan tahay sida quruxda badan aad fakarka noola wadaagtay qof kasta oo na dhegaysanayana wuxuu xaq u leeyahay aragtidiisa inuu ka qayb qaato fakarkiisana uu soo bandhigo adigoo weliba garowsan barnaamijka inuu yahay mid ummadda soomaaliyeed qof waliba uu xaq u leeyahay inuu aragtidiisa uu ka qayb qaato qof kastana uu hadlo aragtiduna ay tahay mid aad u qaali ah qofka inuu wax dhegaysto doodana ummadda soomaaliyeed ay wax ka helaan waa faa'iidada ugu ballaaran ee aadamiga uu ku xisaabtamo ogow barnaamijka iyo waryuhu waa labo annagu fikrad haba yaraatee aan ku leenahay barnaamijku ma jiro si kale ayaan kugu tusaalaynayaa gaari baa wadataa boorsaa gadaal kuu saaran boorsada dhar baa ku jira adiga iyo boorsada isku nuuc ma tihidiin laakiin gaariga waad hagaysaa oo gaarigii adigaa wada sidaa darteed wariyaha iyo barnaamijkaba waa labo fadlan kala saar fikradda barnaamijka uu wato wariyuhu shaqo kuma laha wariyuhuna wuxuu la mid yahay darawalka hantida ku wada gaariga hantidu hadday tahay sonkor saliid ama gaadiid ama gaari oo kale ayaa gaari xamuulad ku wadaa waryuhu waa darawalkii ma darawalkiibaad gaari ku tilmaamaysaa maya waa ka duwan yahay gaarigu shidaal buu qaataa laakiin darawalka cuntuu cunaa sidaa darteed barnaamijku siyaasaduu xambaarsan yahay waryuhuse waa darawalka barnaamijka hagaya fadlan kala saar barnaamijka iyo wariyaha qaadka xiga iyo dhegeystaha ku jira asalaamu calaykum habeen wanaagsan calaykum salaam waraxmatullahi wanaagsan walaal soo dhawow adigoo mahadsan aragtidaadana nagu biiri insha allah sideed u aragtaa aragtidaada adigoo ku biirinaya barnaamijka dhulka deegaanka soomaalida Ethiopia oo hadda qayb ka noqday isbedelada ka jira dhulka Ethiopiaanka hoostaga oo dawladdaasi ay maamusho waxa la yiri hogaanka waa in qabaa'ilada la wareejiyo sidii Tigreega oo imika u wareejiyeen loo wareejiyo dhulka uu noqdaa dhul ummadda u dhaxeeya sidaa darteed Axmed Shide ay Ethiopiaanku keeneen oo oromadu waxay tiri ninka halaga amar qaato
ilaa laga helayo hogaamiye cusub anigana waxay ugu dhalisay inaan ummadii dhex dhiga su'aal ah hogaanka dalka iyo samate bixinta bulshada labadaasi beelood yaad isleedahay ummadda dhulkaa degan bay wax u qaban karaan adiga oo eegaya labada qabiil ee aan miiska soo saaray welibana waan ogahay qabaa'ilo kalena inay degan yihiin laakiin almuhiim waa halka aan isleeyahay barnaamijka ka hag soo dhowow codkaagana ku darso walaal horta aad baad u mahadsan tahay laba arrimood baan horta inaan kala qaado barnaamijka waxaan ku leedahay horta haddii la yidhaahdo dadka qofka meesha maamulaya ee dawladdu hadda ay soo magacawday la sheegayo inuu yahay dirka horta hadduu dir yahay iyo haddii uu ogaadan yahayba oo munaasib buu ku noqon karaa meesha laakiin labada qabiil ee dir iyo ogaadeen horta runta haddii laga hadlo soomaalidu inay been isu sheegto ma aha gobolkan waa la yaqaanaa 9 gobol buu ka kooban yahay 9ka gobol 6 gobol oo ka mid ah waxa dega waa la yaqaanaa ogaadeen baa dega majority-gooda wax yar tuulo yar ma ogiye haddii runta lasu sheegayo wey soomaalidu inay indha tirto horta ma aha majority-ga 9 gobol waxaa dega ogaadeen gobolka faafan waxaa dega niman la yidhaahdo bartire iyo niman jidwaaq la yidhaahdo bartiriya iskuula oo ogaadeen la walaalaa dega gobolka faafan waxaa soo hadhay gobolka city iyo gobolka la yidhaahdo liibaan labada gobol city waxaa dega reerka yidhaahdo ciise haba ahaadaan dir gobolkaas maxaan ku dhahdaa la yidhaahdo liibaan waxaa dega sida la yaqaano dad badan oo isku jira oo maxaan ku dhahdaa aan hal qabiil ahayn baa dega sida xaqiiqatan marka haddii la yidhaahdo horta nin qof dir ah waa qof soomaali ah gobolkaas waa maamuli kara laakiin haddii la yidhaahdo qabiil wax lagu maamulo runahaantii qofka dirka ahee la keenay ee majority sheeganaya ama meesha annagaa degnaa bal meeshay degaan ha la sheego magaalada ay degaan hala sheego waa la yaqaanaa 9 gobol ka kooban yahay gobolba caasimadiisa la yaqaanaa gobol walba intuu ka kooban yahay degmaa la yaqaanaa gobolba tuulooyinkiisa la yaqaanaa bal waayahay dadka waxaa la rabaa caawa barnaamijkan dhegeysanaya qof intuu tiriyo yidhaahdo degmadaas ama maxaa ku leedahay tuuladaas waxaa dega qabiil dir ah baa la iska rabaa haddii la yidhaahdo majority-ga waxaa lagu maamulayaa qofka dirtahe lasoo doorto haddii uu wanaag iyo dee soomaalinimo iyo wax lagu soo dhaweynin oo la yidhahdo qabiil baa lagu soo dhaweynaya xaguu maamuli doonaa xaguusa ka tarin doonaa wey waa yahay dadka ku dhagaysanaya qaarkood baa su-aal qaba oo ku saabsan markaad leedahay haddii qabiil lagu soo maamulo halkee buu maamulayaa waxay dadku ku weydiin karaan su-aal ay ka mid tahay shalay soo beel ma hogaaminayn dhulkaasi beeshaasi halkee bay maamulaysay beeshaasi waxay maamulaysay haddii aan u dhigno si qabyaaladaysan ee hadda soomaalidu ay wax u wadaan haddii aan u dhigno waxay maamulaysay ninkii hadda cabdi maxamed cumar ee meesha haystay wuxuu ahaa nin ogaadeen u ahaa oo reer cabdille u ahaa reer cabdille ogaadeen markiiba hoos loo sii dhaadhaco weeye ee hoos loo sii tago ee jirkiisa hoose lasii tago reer cabdille u ahaa reer cabdille keli ah waxay degaan 4 gobol bay degaan oo 9 gobol ee meesha ka kooban bay degaan halkaasuu maamulaya haddii ogaadeen la yidhaahdo 6 gobol oo 9 gobol ee meesha ka mid ah 6 gobol ogaadeen baa dega markii laga reebo gobolka yidhaahdo dhagax buur oo ay dhowr tuulo 2 tuulo ama 3 tuulo ay degaan reerka yidhaahdo isaaq oo maxaa ku weliba tuulooyin yar oo biradhow la magacaabay markii laga reebo 6 gobol ee kale ogaadeen keligii baa dega gobolka faafan waxaa dega maxaan ku dhahdaayey niman ogaadeen la walaala oo afsame la yidhahdaa dega 9 gobol 7 gobol bay noqonayaan waxa soo hadha waa 2 gobol bay noqonayaan oo labada daraf kala jira dabcan halkaasuu maamulaya waa ilmaaderadii baa degan dadkiisaa degan laakiin annagu haddii horta aanu nahay anigu nin ogaadeen aan nahay ma aaminsani in la yidhaahdo maanta ogaadeen keligii baa maamulaya haddii aan anagu ogaadeen nahayna hadafka nagu markii hore ma ahayn inaanu dhahno meeshan yaa maamulaya iyo madir baa maamuli iyo madaarad baa maamuli ujeedada ugu weynaad ogaadeen ay raadinayeen markii hore waxay ahayd in Ethiopia ay iska dhiciyaan dhulkana aysan Ethiopia qaadanin walaalada Soomaalina waxay u arkeen dad walaalo ah in badanna sidii aan ognahay urur baa ka dagaalamayay meeshaas waxay u yeedhi jireen dadka walaaltinimo Soomaalinimo iyo in dadka Soomaalidu ay walaalo yihiin oo Ethiopia la iska dhiciyo way murba u yeedhi jireen waa ku gartay ururka dadkoo dhanna way aaminsan yihiin sida ONLF oo kale waa ururka keliya Soomaalinimada dadkoo dhan ay qadiyadan ONLF ay ka wada gadan tahay bahda warbaahinta sida gaarka ONLF u barbar taaganna aniga waan ka mid ahay marka bal ururada meel ii dhig waxaan rabaa marka inaan ogaado goordhaweyd jigjigaa la weeraray waad ogeyd military baa ka howlgalay militarygii magac baa loo sameeyey waxa la yidhi oromaa weerartay adigu weerarka jigjiga lagu qaaday yaad isleedahay wuu weeraray dabcan taas waa iska caddahay meesha yaa mas-uulka ahaa militariga waddanku dawlad buu leeyahay ma aha waddan fooda ah oo dowladda ma aha
ciidanku meel buu ka amar qaataa wadanku madaxweyne maxamed ra'iisul wasaare uu leeyahay baawarka ugu sarreeya wadanka haysta wasiir gaashaandhig baa jira amar la'aan min soo gelin haddii weerarka wuxuu ka soo baxay dowladda dhexe ka soo baxay ima fahmin yaa amray kumaan oran waxaan ku yiri waxa la yiri oroma meel weerartay annaguna warbaahin ahaan waxaan aragnay military meel weeraray adigu ma waxaad aaminsan tahay qoomiyadda oromada in ay weerareen isweer ka qabteen jigjigo mase waxaad aaminsan tahay militariga federaalka ee dowlad ka amar qaatay inay weerareen halkaa may anigu ma aaminsan inay oromo weerartay oromadu ciidanku way u bannaan kartaa military ahaan bay u bannaan kartaa laakiin ma aaminsan inuu ma dhahayo oromaa weerartay oromada dad waxaa jira aan walaalanahay oon isku dhaqanahay oon deegaan nahay oon din iyo dad iyo dhaqanba aan wadaagnaa jira anu ma aaminsan inay oromo khaasatan ay weerartay laakiin waxaan aaminsanahay in ay militarigu uu yahay militariga dowladda dhexe cid walbana ay ka tirsanaan karto oromadu ay u bannaatay Tigray Axmaaro xitaa laga heli karo inay Soomaali ku jirto waa ku gartay su'aashada kale oo inta badan dadka ay isweydiinayaan waxa kamid ah New Police ayaa su'aali ka timid annagu ma ogin laakiin sida ay dadku leeyihiin 90% waa hal beel baa la yiri New Police-ka marka adiga oo hadda i dhageysanaya ma aaminsan tahay oo ma qiraysaa mise waxaad leedahay waa been kuma dhahayo waa been way u badan yihiin wayna u bannaan karayaan waayo waxay u badan yihiin dadka meesha degan baa hal qabiil u badan maadaama dadka meesha degan ay hal qabiil u badan yihiin dabcan dadka ka soo dhaxbaxa meesha ama ciidan ahaada ama wax kale ahaado dabcan dhinac buu u badan karaa haddii maanta ay jiri lahayd meesha in dadku ay siman yihiin qabiil ahaan meesha degan de waxaa la dhihi karaa siday ugu bateen laakiin hadda in la isweydiiyo su-aasha siday ugu bateen anigu khalad baaban u arkaa waayo dadka meesha degan baaba de hal qabiil u badan soo maa aad baad u mahadsan tahay sida quruxda badan aad fakarkaaga noola wadaagtay qof waliba oo na dhageysanayana wuxuu xaq u leeyahay aragtidiisa inuu barnaamijka ku darsado ileen waxaa habboon qofka aragtidiisa in uu ahaado qof aragtidiisu ay dhammaystiran tahay qof kasta xaq buu u leeyahay inuu nala wadaago fakarkiisa asalaamu calaykum habeen wanaagsan qadka xiga habeen wanaagsan waryo balwaan waa ku salaamay waa ka qaaday mid taala midaan hawada ku soo marinaya soo dhawow aragtidaadana ku biiri barnaamijka insha Allah yaad isleedahay waqtigan ummadda degta dhulka deegaanka Soomaalida Ethiopia way maamuli karaan oo hogaanka way qaban karaan labada beelood oo aan miiska soo saaray sida ogaadeen iyo dir ayaan miiska u isaaran yahay ilaa iyo 48 saac ayaan baadi goobaya jawaabaha oo ilaa xalan soo bilaabay waxaan rabaa inaan diiwaan geliyo ummadan aan u cadeeyo shacabku waxay doonayaan bal ku darso adigana niyo horta waa ku salaamay adiga barnaamijka inta dhageysana waan salaamayaa haddaan guda gala mawduuca dir iyo ogaadeen markii la dhaa taasaaban anu arkaa isbarbardhigga inuu gaf yahay in dir iyo daarood la dhaa maaragtay bay xaq u leenahay saana loo hadlo marka aan ku soxo anigu tartanka qabaa'ilada Soomaaliya maaha waxaan wado waxa weeye dhul kaliyan ka hadlaya waan ogahay in ay isbarbardhigu uu qaabka noqon karo laakiin hogaanka hogaamiyaha soo baxaya ee dhulka hogaaminaya ilaa dhulka ma dhalanayo erkan kama soo dhacayo maadaama uu abi yiri ilaa dawlad rasmi oo la isku raacsiyan laga helo Axmed Shidaha laga amar qaato isagana hal hoosgeeyo Axmedna uu ka soo jeeda beesha ayaa waxaan iri xaq ma u leeyahay murana ka yimid aniga inta badan marka barnaamijka qabanayo waxa muranka keenay ayaan ka hadlaa Axmed dartii muran baa ka yimid faragelin baa jirtaan la yiri ummadii baa la qasayaa la yiri oroma ummadii la wareegaysa la yiri wax badan baa la isku daray sida awadeed baan dir u keenay meesha sababtan ogaadeen u keenana waxay tahay dhulka ay hore u maamuli jireen halka ka soo marka waaya haddaan guda galo waxaan rabaa inaan qodobeeyo qodob waxaan kaga hadlayaa dhulka qodobna waxaan kaga hadlayaa yaa xaq u leh inuu maamulo cadaalad maanta ay ku jirtaa qodobna waxaan kaga hadlayaa waxa danta guud ah saddexdaa qodob baan u kala qaadayaa waa maasan tahay qodob waxaan kaga hadlayaa waxaa su-aasha maaragtay waxaa in badan badatay jawaabteedana aan lahay wax bixiya dadkii hadlayana arkaya iyagoo dhahaya dhulka yani ogaadeen baa degan ogaadeen baa majority ogaadeen baa ku badan gobol hebel meel hebel dhahaya marka taasaan rabaa inaan horta jawaabteeda bixiyo haye waxaan rabaa dadka inaan weydiiyo hadda soomaaliya oo kale markaan tusaale exampleka aan bixinaya soomaaliya oo kale aan kasoo qaadanaya soomaaliya waa stadio oo maaragtay federal baa wax lagu dhisay waxaana lagu dhisay maaragtay gobolaysi iyo degmaysi iyo maaragtay qaabka dhulka loo kala degan yahay waxaan kasoo qaadanayaa meesha la yidhaahdo gaalkacyo ilaa meesha la yidhaahdo muqdisho dad reer quraa degan inaad og tahay moogi yani sida saxda ah oo waa dhul isku xidhan haye cabirka iyo kilomitarka iyo deegaanku wuxuu yahay qofku garanaya dhulkaa yaqaana marka waxaan ka bilaabayaa dhulku dirku uu degan yahay
danood meesha la yidhaahdo ilaa waxaan geynayaa meesha la yidhahdo diridhaba oo 700 kilomitir ah diridhaba ilaa mooyaale oo 1700 kilomitir ah hadda isku dar waa 700 kilomitir iyo 1700 kilomitir meesha 2400 kilomitir ku haysaa haye laga bilaabo dhaamoole magaalada la yidhaahdo gurra dhaamoole ee xuduudda leh oromada ilaa dolobay 700 kilomitir waxay dhulku markii la isku geegeeya kilomitirka dhulku dirku degan yahay waa 3700 kilomitir buu noqonayaa halka ay ka degan yihiin maan kaarta isticmaal hadda gal hadda rabto marka ayaga waxaad ka bilaabaysaa dhulkooda wuxuu ka bilaabanayaa meel la yiraahdo maaragtay hargeyla uu ka bilaabanaya hargeyla ilaa jigjiga korkeeda waa 500 kilomitir balaca haddaad saarto wuxuu noqonayaa asna wuxuu noqonayaa 500 kilomitir ma gaaray 450 buu noqonayaa isku weer wuxuu noqon 900 kilomitir buu dhulkooda noqonayaa 900 kilomitir bay waxay ii isticmaalayaan anoo degan 2700 kilomitir inuu ku dhaho dhul baan leeyahay dhul baan deganahay oo resource khayraadka ugu badan deegaankayga uu ka soo baxo beeraha ay deegaankaygu yahay dhulka webiga wax ka soo baxay deegaankaygu yahay khayraadka dhan dhulkuna uu deegaankaygu yahay ka soo tag hadda gobolka Shabeelle oo kale tusaale ku siin Shabeelle ay sheeganayaan inay degan yihiin Shabeelle waxaad ogtahay in qabaa'ilada hawiyaha ay majority ku yihiin qalaafe ilaa maaragtay xaggan ka soo qabo maaragtay meesha la yiraahdo qalaafo duubiya ay wada degaan iyo qabiilo kale hawiya meesha la yiraahdo feerfeer ilaa maaragtay meesha la yiraahdo magaalada la yiraahdo magaalada ladsanayo shaaw xasan ku degaan dhulku marka wuxuu noqon qor Soomaaliya oo dhan dhulku way wada degan tahay oo Soomaali way u dhan tahay hadday noqoto yaa majority ku walaal waa la ogyahay waxa majority ku ah way haysaa maartay koobka ugu dambeeyay 2017 dirku dhulku wuxuu ka yahay walaal 75 aad baan ku gartay marka dadkana dhageysanaya ee aan adiga kugu fikradda ahayn waxay aaminsan yihiin maxay tahay sababta hadda beelweynta dirir ay hurdada uga kaceen oo ay hadda u hana qaadayaan iyadoo aad og tahay in halgan iyo dhiig loo soo daadiyay dhulkan goorma la xusuustay in dhulka ay degan yihiin beesha direed inaad arag aan taasan ku leeyahay horta dadku fikirka waa lagu kala duwan yahay dadka meesha degan qabaa'ilada waxa ku jira ninkan aad ka hadlay Axmed sidoo kale hadda sawirkiisa meesha aad soo saartay qabiilka uu ka dhashay gurre la yiraahdo hal tuulo kuma la Soomaaliya hal tuulo wallahi hadda hal tuulo kuma le laba kaar ma le hal kaar bay leen waa Ethiopian Ethiopian ku dhintaan oo xabadka u dhintaan dad waxay aad markaa aaminsantahay inaan niso uu ninkan markuu aaminsan yahay uu Kismaayo oo halka u doonanayo xuquuq ka raadinayo in fi xuquuq ka raadiyo ninkan Ethiopia xuquuqdiisa ka raadiyo in Ethiopian yahay 100% Ethiopian buu maaragtay muwaadin Ethiopian weey ninkan iikan akishe 100% muwaadin Ethiopian weey ninka jaarsa 100% Ethiopian weey nin qabiil dhan oo madaxweyne dir la dhahay wuxuu yahay hal tuulo Soomaaliya ku lahayn oo 100% Ethiopian ah oo liiskooda Ethiopia yaalo oo historygooda taariikhdooda in Ethiopia taalo qabiilka Soomaalidana curadka oo ay dirkana curadka oo u weyn weey marka waxay noqon ninkan duurku ku jira duurku wuxuu ugu dagaalamay jabhadan waa jabhad aan waxaan aqoonsanay adood wadan iyo dib xoreen waa aqoonsan tahay anu afdagaadana igu jabhad naazi oo cunsuri aan aqoonsanahay oo faquuq iyo ku dhisan jeclaysi iyo dad gooniya inay maaragtay xukun u raadiso oo kursi ku dagaalanto hadda risaaro markuu imaaday isbedel buu keenay isbedelku uu keenay 4500 oo Soomaaliya xabsiga ka sii daayay oo u badan tahay ayagu u badan yihiin qalbi dhagax oo Muqdisho laga soo dhiibay xabsiga ka soo daayay wuxuu sameeyay wuxuu yiri waro xisbi furta oo baarti furta oo ka noqda wadanka qayb isbedelka oo constitutionka wadanka iyo sharciga wadanka waxaad ku tii muwaadiniin noqda wadanka u tartama xuquuqdiina raadiga waxay noqdeen markii wadankii ay soo galeen waxay bilaabeen inay qalalaasa bilaabaan qalalaasa wuxuu yahay ma inay ku dhisan tahay kula tahay Soomaalinimo may وقبيلات عنصرية عنفية ayaga wax u gooniya ku dhisan tahay waayahay su'aasheeda kale waxay noqonaysaa military baa dhawaan weeraray jigjiga militarigaasi laba magac ayaa loo kala bixiyay dhulka deegaanka hogaamiyaashii hogaaminayo Cabdi Ilay kamid yahay wuxuu warbaahinta u sheegay in ay Oromo ku duushay dhulkaasi annagu se waxaanu aragnay military labisan oo wata gaadiidkii dagaalka oo halka howlgalka sameynaya howlgalkii jigjiga ka dhacay ma Oromo duushay oo Soomaali ku duushay mise militariga federaalka ayaa weeraray jigjiga inaad waxaan ku sheegayaa Oromo kuma duulin jigjiga Oromo 1700 kilomitir oo xuduud la leenahay annaga la leh dirka la leh nabad baan ku wada noolnahay oo wadaag baan nahay waxaan nahay diris wadaag baan nahay wax dib oo naga dhaxeeya male Oromaduna waxay ka mid tahay qoomiyadaha Ethiopia degan oo wadanka waxay ka tahay majority Ethiopia qoomiyada ugu badan weey
waxaad ogtahay oromo in madaxa lagaga taagnaa ilaa dhowr boqol oo sano la xukumayo oo qoomiyada ka yaroo minority xukumayeen waxay u dagaalameen xuquuqooda inay helaan oo kursiga ra'iisul wasaaraha iyo dowladda dhexe hantiyaan markay qabteen soomaalida waxay ahayd meeshii ugu horeysay usoo baxeen safar bay usoo aadeen in ay dhaheen soomaaliya inagu ood wadaag baynu nahay deris baan nahay waddanka aan wada maamulno oo maaragtay aanu iska dayna maaragtay wixii fadqololo waddanka ku ah waa gartay ra'iisul wasaaruhu markuu isbedelka iyo hadalkaa keenay lagama amar qaadan lamana dhegeysanay ciidanka new booliska weerar bay qaadeen olamada iyo dagaal ay ku wadaan oo maaragtay si ay oga dhigaan maaragtay meeshan looga dhiga meel oromo iyo soomaali ay ku dagaalamayso waxaana shaxda ciyaarayay nimankii tigrayga ee xukunka lagala wareegay ee waddanka minority-ga ka ah ee maaragtay rabay inay waddanka ay gumaystaan oo dadka maskaxda ka haystaan marka waxaa la yidhi marka nimanka tigrayga nimankana la shaqaysanaya cabdi ilay tiimkiisa la shaqaysanaya waxay kula shaqaysanayeen in dadka soomaalida la laayo la dhaco la xasuuqo la caburiyo aan hadin hal qof hadduu fikirkiisa xortaa dhigto waa la dilayay waa la marjinaya habeenka ama xabad baa lagu gufanaya oon alefna kuwaasay xiriir la leedahay habeenkii gruubba ayaga cabdi isku gruub bay ahaayeen waxaa tusaale kugu filan kaliyaan kuu siinaya wax yar oon alef kama hadlaya caawa dhulka deegaanka baan ka hadlaya marka waxaan rabaa in aan ugu dambayn ku weydiiyo su-aal waxaad og tahay muranka inuu ka yimid shidaalkana warbaahintu waxay la socotay heshiiskiisa inuuna dhicin hadda uu mar hore dhacay mar hore markuu dhacayna cabdi maxamuud cumar lama wadaagin bulshada deegaankiisa saamiga ay soomaalida ku leedahay mar kalean ku celinaya heshiiska shidaalka ma dhicin hadda dhow ma dhicin murankan markuu yimid ma dhicin mar hore ayuu dhacay inta aanan ceel kala tijaabinna waxaa qasaba inay jirto heshiis wadaag dowladda iyo dhulkaba ay wadaagayaan soomaaliya yaa laydinka hoos bixin dhulka deegaanka soomaalida Ethiopia hogaamiyahooda wuxuu la wadaagay federaalka xuquuqda iyo wada hadalkaba heshiis baa la kala saxiixday cabdi maxamuud cumar ummadda deegaanka degan iyo shacabka Soomaaliyeedba uma akhrin saamiga ay leeyihiin arqaladuhu markay bilowdeen kadib ayaa waxa soo baxay hadal uu yiri Abiy Ahmed Soomaaliduna ma eegin hadalka maxaa ka horeeyay sayftay gasha kala baxeen heshiiska 5% maxay kula tahay inaad rabtaasan ku caddaynaya hortu qoondada shidaalka Soomaalida laga siiyay waxay u baahan tahay si aqoon ku dheehanta oo cilmiyeysan oo maaragtay loo baahan yahay in looga doodo lagana wada hadlo qoondadu waxay noqonaysaa hortu shidaalku shirkadda maaragtay qoday ama maaragtay waddanka soo saaray Ethiopia kala bar bay leedahay markii dowladda dhexana kharashki iyo maaragtay ilaaliga iyo amnigiisa iyo shaqaalihiisa wixii ku baxay kharashki maaragtay dowladda dhaxan waxay qaadanaysaa maaragtay saami bay leedahay deegaankuna saami buu leeyahay marka taas baa waxay u baahan tahay in toos looga wada doodo oo intii loo tago dowladda dhex maaragtay aqoonyahan iyo maaragtay matalaad shacab oo dhab ah in maaragtay deegaanka uga doodaan oo xuquuqdooda uga doodaan kuma weydiin qaabka doodida waxaan ku weydiiyey cabdi maxamuud cumar heshiiskaasi horay ayuu u saxiixay ummadda reer deegaankana uma usan bandhigin laakiin carqaladda markay timid ayaa hadal uu yiri Abiy Ahmed bay dadku ka caroodeen hadalka Abiy Ahmed hadal baa ka horeeyay ileen heshiis la'aan tijaabo lama galaye goormaad adigu isleedahay go'aanka rasmiga cabdi wuu gaaray ummadda Soomaaliyeedna 5% baa lagu kiciyay maxay tahay dhibkaasi bal u micnee adigoo deegaanka ka soo jeeda sababta cabdi uu markii hore heshiiska u qariyay haddana uu heshiiska natiijadeeda dagaal u galiyay shacabka Soomaaliyeed kaasaan ana micnaynay waxay tahay inaad raawo macnaye cabdi ilay nimankii tigrayga waddanka maamuli jiray soo afkiisaba ka qeyrtay isagu uu sheegay wax hadal ah kuma soo celin jirin hadday dhahaan hooyadaa soo dil wuu dilaya aabaha dil haddii loogu dilay wax heshiisa iyo wax qoondaa iyo wax maaragtay percentage uu kala hadlay nimankii tigrayga waddanka maamulay ma jirin waxay ahayd waxa keliya uu maaragtay isagu sameeyey in uu maaragtay dhulkii iyo deegaankii maaragtay dadkii inuu laayahay laakiin inuu xuquuqda deegaanka iyo ka hadla maaragtay wixii maaragtay qoonday dadku helayaan shidaalka kheyraadka ay ku leeyihiin waddankan maba jirinba kamaba hadlinba gorgortanba kama gelin marka xaaladan hadda la abuurayo ama ninkan lagu abuurayo waxaa la rabaa in dowladda dhexe lagu fashiliyo si ay dowladda dhexe u hana qaadin una dhaqaaqin dimuqraadiyad iyo cadaalad ka curata Ethiopia axzaabtana aan u furmin oo xukunkii dictatorka ee tigrayga uu soo laabto horta ololaha lagu jiray ama cabdi iyo tiimkiisu ka shaqeynayaan iyo nimanka jabhadaha sheegto waa nooca marka
waa gartay aad baad u mahadsan tahay sida quruxda badan oo aad fakarka noola wadaagtay mahadsanid dhegeystayaasha sharafta leh meel walbay dunida ay ka joogaan fahamku waa shay qaaliya haddii aad rabto in aad doodaha barnaamijyadeeda aad ka qayb gasho fakarkaagana aad ku darsato insha allah qof kasta xor ayuu u yahay 2 saacadood ayaanu qabanaa 2 jeer mar waxaynu soo galnaa 12 habeenimo waxaynu ka baxnaa 2 habeenimo waa 2 saacadood marna waxaynu soo galnaa 3 galabnimo waxaynu ka baxnaa 4 galabnimo waa 2 saacadood ifaham 12 saqda dhexe ama 6 saac habeenimo soo galnaa 2 habeenimo ayaanu ka baxnaa marna waxaynu soo galnaa 3 galabnimo 4 ayanu labada ayanu soo galnaa 4 ayanu ka baxnaa marka garashadu waa 2 ilaa iyo 4 iyo 12 ilaa iyo 2 marka 2 saacadood weeye haddaadan South Africa deganayn ama aadan ku noolayn oo aadan iga dhageysanaynin waxaad igala jaan qaadi kartaa janalada idaacadu ay ka hadasho ee kala ah Aftahan Production iyo waliba Madasha Production labadaasi janal ayaad iga dhageysan kartaa Aftahan Production ayaad barnaamijka ka maqli kartaa hadduu hadda ku seego oo aad rabto inaad dib u dhageysato booqo oo ku biir janalka Aftahan Production mar labaad ayaan kugu celinayaa si aad barnaamijka u dhageysato haddaadan update ahayn waxa adkaanaysa inaad ila jaan qaado ogowna barnaamijka iyo wariyuhu waa labo sida darawalka iyo hantida saaran gaariga ay laba u yihiin annagu fikrad ka gooniya barnaamijka ayaynu wadanaa aragtida shacabka ayaa iskale waa mahadsan yihiin intii ka qayb gashay caawa oo aynu sidoo kale soo bandhignay dhibaatada ka jirta dhulka deegaanka Soomaalida Ethiopia waxaan ku numjeer ugu mahadcelinayaa fikradaha dhageystayaasha oo ilaa xalay soo wadnay insha Allah natiijadeedana aan soo bandhigi doono dhulka deegaankaasi aragtida shacabka ay hogaaminayaan barnaamijkan mid la mid intaanu ku kulmi doono haddaad Facebook iga dhageysanayso ku biir channelka Aftahan Production ku biir Aftahan Production ayaad barnaamijyada ka dhageysan kartaa Aftahan Production ku biir si aad update u noqoto xaaladaha guudna aad ula socoto janalada aad iga dhageysan karto Aftahan Production ayaa ugu horeeya sidoo kalena waxaad iga dhageysan kartaa Madasha Production fahamku waa shay qaaliya waxa wanaagsan inaad marka hore update aad noqoto isbedeladana aad la jaan qaado waxaa jira dad fara badan oo aragtiyo kala duwan ka dhiibtay fikradda aan ururinayo oo iga codsaday inaan aad u yareeyo laakiin ma dhici karto waayo ummadda loo adeegayo ayay qayb ka yihiin tusaale isbedel baa dalkii ka dhacay dhulka deegaanka jigjiga ama kilinka shanaadna waxay ka mid yihiin Ethiopia hadduu isbedel ka dhacana waxaa qasaba iyaguna inay kaalin ka qaataan ama isbedelku soo food saaro waxaa badatay muuqaallo argagax leh oo lagu faafiyey baraha bulshada oo intooda badani ka tarjumaya muuqaallo naxdin leh oo dad fara badanna ay ka tacajibeen oo xasuuqa oromada iyo Soomaalida loogu magac daray qaar baa run aha qaarna been bay ahayd caawa ayaan barnaamijka ku soo bandhigay waxaa kaloo ku dhaafay oo barnaamijkaanu ku soo bandhignay aragtida guud iyo qaabka ay shacabka Soomaaliyeed u arkaan hoggaanka dalka in waqtigan labadaasi beelood midkood uu hogaami karo waxaana soo wacay taageerayaal aaminsan in dhulkaasi dadkii u soo halgamay faraha looga qaado ilaa waa qoomiyad dhan oo Soomaaliyeed annaga dhaxdhaxaadan ka nahay qaar baa yiri beelweynta dir xaq bay u leedahay ummadda inay ogaada marka annagu waxaynu wadnay 2 maalin ayaan ugu talagalnay iyo 2 habeen ayaan ugu talagalnay inaan cod aruurin u sameeyno waxaa kun jeer mahadsan shacabka dhulka deegaanka Soomaalida Ethiopia naga dalbaday inaan cod bixintaasi ummadda la wadaagno oo aan ka qorno dadkii taageeray dir iyo dadkii taageeray ogaadeen dhulka ayaa tartan lagu galay annagu waa dhageysanayna waa arkaysaa qof baale 6 aan leenahay mid baale 6 ka badan aan leenahay annagu kuma celinayno qofka ma dhahayno beenlo waa tahay malihid ma dhahayno dad annaga aqoon u saaxiiba oo juqraafiga fahamsan ayaa naga soo dalbaday shaqo kuma lihin haddaad adiga tiraahdo 6 gobolaan degaa qofkaana uu yiraahdo ma degay intaasaan degaa annaga naga sugin inaan dhahno adaa been sheegaya adaa run sheegaya intaba ma dhahayno ummadoo dhan ayaa saxan annaga xaggeena fikradda aan kaa qorayna nala muhiimsan ogaadeen iyo dir ciddii guulaysata inta doorashadu ay socoto oo Axmed Shide loo dhiibay dhulkaasi waxaan wadi doonaa afkaarta shacabkan wadi doonaa ilaa doorasho ay ka dhacayso dhulka deegaanka Soomaalida Ethiopia afkaarta kama daali doono waxaan kun jeer u mahadcelinayaa inta waqtigoodana siisay sambuuradda ku soo hartay sambuuradda caawa waxa la wareegay oo dhaqdhaqaaqoodii uu ka dhex guuxayo beesha dir taageerayaashoodii baa la wareegay siyaasiyiinta dadka taageersan u dhashay beesha dir ayaa sambuuradii la wareegay sambuuradda waxaan kala jeedaa commentiska channelka Aftahan Production ayaan barnaamijka live uu ka yahay Facebookna waa ka yahay dir mooyaane cid kale ma arko dhanka social mediahana dir baa qabsaday dhinacii Aftahan Productionna dir bay u xoreysan tahay qoraalka automatic way ileen keyboardka la qorayo ama mobile sida loo kala boobsiis badan yahay ayaa loo kala guuleystaa ma aha qof hal xaraf markuu qoro xarafka kale niyeysanay ma aha
waa in aad barataa qoraalka sida uu yahay taageerayaasha dir ayaa haysta caawa laakiin xalay waa laga haystay oo taageerayaasha ogaadeynaya ayaa xalay qabsaday sambuuradda oo aan kala jeedo commenteska habeen dambe iyo berri galabna waxaan wadi doonaa taxano dhibaatooyinka halkaa ka jira ayaan hal usoo bandhigi doonaa fadlan mar walba na soo wac teleefonkeena waa kaa aragtidaada noo soo bandhig nala wadaag na canaano annaga ma kaa weynin ma iska kala weynin aragtidaada ma kugu diidayno dad badan ayagoo dheg la qabta lahayn isoo gala oo isoo waca wallahi waa dejiyaa qof aan ku xanaaqay haba yaraatee ma jirto ilaan waxaan aaminsanahay qof walba inuu saxaya intaan barnaamijka lamida kulmi doono waa cabdilaahi balwaan oo leh reer facebook haddaad rabtaan inaad barnaamijkan dhegaysataan ku biira channelka aftahan production halkaa ku biira aftahan production ku biira aftahan production ayaa idiin fududaynaya barnaamijka inaad dhegaysataan hadhowta ha isoo weydiin haddaba dhagahaaga fur barnaamijka waxaad ka dhagaysan kartaa aftahan production ayaa inoo ballana subscribe leh si aad halkaa ula socoto barnaamijyada ka baxa inta ka horeysa waa cabdilaahi balwaan oo idinku dhaafaya taageerayaasha beelweynta dir way mahadsan tihiin taageerayaasha beelweynta ogaadeynaya way mahadsan yihiin taageerayaasha beesha ogaadeen way mahadsan yihiin ummadda soomaaliyeed ee dhegaysanaysa dhexdhexaadka ka ahaa way mahadsan yihiin aniga iyo farsamo yaqaanada ila howlgalayana waxaan idinku dhaafaynaa habeen wanaagsan